caawa waxaa martino ah wasiirkii hore ee shidaalka iyo macdanta Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim wuxuu naga hadli doonaa mowduuc ku saabsan shidaalka Soomaaliya iyo fursadaha caqabadaha ka jira. الرحمن الرحيم سلوى وماسنتاي سيدو كره هبات تيم حسن دودي شيء دمان اخيارته كشقين باك جراوندka noo suurtageliyay inaan caawa fursadan isu yeelano runtii waan kaga mahad celinayaa waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo araar ama hordhac dhamaan dadka Soomaaliyeed ama dadkan Soomaalida ahayn duruufaha dalka ka jira way ka warqabaan marka badanaa dooda weyn ayaa waxay tahay shidaal ma la soo saaraa miyaa la soo saarin dood noocaas oo kale aniga waxaan ku jiraa dadka qaba in kheyraadka Soomaaliya laga faa'iideysto manaha marka waxaan rabaa inaan sababta aan u arko arrintan inaan ku bilaabo marka hore kadib yaa la yiraahdo aan u gudubno duruufaha ku wareegsan أنا دلك الصوماليات مركز الله فيريو عالم كمركز السكر بالجمان وطنودا مركز نقطة GDP أما معناها لقارة مركز الصورية وحيابها لو صورة وحكم ده أما تصالح لو الوعبر وحكم ده GDP أو رانكينج كصومالي وحكوجة تابع ولا فرتني سديد تدو كلام معناها كوبا على لقارة ورنتها مركز الفيريو عالم كحكوجة الصومالي ولا فرتني سديد marka la fiiriyo wadamada caalamka wax dhoofiya waxay ku jirtaa Soomaaliya kaanada 168 wadamada gabi ahaan ku tiirsan wax soo dhoofsashada waxay ku jirtaa Soomaaliya kaanada 38 and so on marka markaad fiiriso deynta lagu leeyahay maana waa 131 aan nahay markaad fiiriso shaqalaanta dhalinyarada Soomaaliyeed dalka haysto waxa lagu sheegaa ilaa 70% inay tahay markaad fiiriso arrimaha caafimaadka caruurta yar ee ku dhimatay 5 sano wixii ka hooseeyo markaad fiiriso dadka aan waxna qorin waxna akhrin dhammaan duruufahaas oo dhan markaad fiiriso su'aal ma ka imaan karto Soomaaliya inay u baahan tahay horumar dhaqaale marka wadan noocan oo kale marka uu rabo dhaqaale inuu horumaro kuma horumari karo macnaha macaawina iyo kaalmo iyo kuma horumari karo wuxuu u baahan yahay kheyraadkiisa inuu ka faa'iideysto Soomaaliya Ilaahay wuxuu siiyay kheyraadyo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrimaha shidaalka oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga iyo waxyaabo kale badan marka taas ayadoo marka laga duulayo marka ayaan rabaa in aan isla faahno inaan tahay Soomaaliya wadan macnaha u baahan inuu kheyraadkiisa uu ka faa'iideysto su'aasha labaad oo badanaa dadka isweydiiyaan macnaha waxay tahay Soomaaliya shidaal ma ku jiraan su'aasha badanaa ayadana soo laabata dabcan Soomaaliya ilaa ay hadda shidaal oo commercial oo proved ah oo la cadeeyay ma jiro laakiin marka fiiriso dhammaan wadamada nagu wareegsan way ka mid tahay Ethiopia way ka mid tahay Kenya way ka mid tahay Tanzania way ka mid tahay Uganda way ka mid tahay South Sudan markaan korso aad Yemen maana markaad gacan ka cagmeed inta Imaaraadka Oman dhammaan shidaal ayaa laga wada helay marka dhul ahaan iyo qaab ahaan waxaan la wadaagnaa wadamaas ayaan la wadaagnaa dadka balafsigeeda aan la wadaagnaa marka maadaama wadamada shidaal laga wada helay potentialka Soomaaliya inuu ku jiro ah ayadoo aan laga fikirin dhan seismic ama macnaha survey aan sameeyno aan gadaal kaga hadli doono ayadoo laga fikirin just kaliya marka la fiiriyo wadamadaas oo lagu wareegsan shidaal marka laga helo maana fursadda Soomaaliya in shidaal laga helo way badan tahay su'aal kiman doonto su'aal macnaha ilaa xadku ganacsi garaa quantity-diisa maxaa waxyaabo saas oo kale laakiin qaabduleedka maadaama aan la wadaag fursad fiican ayaan u leenahay shidaal in laga helo marka maxay tahay marka waxa aan ay Soomaaliya ama dawladda Soomaaliyeed u danaynayso in macnaha shidaalkan laga faa'iideysto ana waxyaabo ugu horeeya waxay tahay dawladdu waxay u baahan tahay dakhli wadanku wuxuu u baahan yahay dakhli shidaalka sidiisaba waa intangible macnaha asset I mean what tangible asset way macnaha oo ku jira badda dhulka hoostiisa ama badda hoosteeda kaasoo u baahan in la soo bixiyo loo bedelo intangible asset oo ay ka faa'iideystaan bani aadamkii oo macnaha kobac bani aadamku ku yimaado kobac dhaqaale uu ku yimaado oo loo bedelo tangible assets oo ama jidad lagu dhiso ama dekedaha lagu dhiso ama so forth lagu sameeyo oo waxyaabaha looga faa'iideysan karo ayay ka mid tahay soo marka dawladda horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee danaynayso waxay tahay in uu yimaado macnaha dakhli dhaqaale inuu yimaado sidoo kale inuu abuuro fursad shaqo oo waxyaabaha kobac dhaqaalaha badanaa la yimaado inta badan macnaha
shidaalku wuxuu saameyn ku yeeshaa kaabayaasha kale ee warshadaha asaga la xiriira macnaha saameyn ku yeeshaa sidoo kale waa macnaha source ama il laga abuuro macnaha energy-ga ama korontada laga abuuro ayay tahay iyo mid ugu dambayso ah ku tiirsanaanshaha lagu tiirsanayo wadamada kale marka laga helayo shidaal ayaa laftigeeda hoos ay u dhigaysaa maadaama shidaalka adiga aad soo saaratay waddankaadu yahay uma baahnid marka waddan kale inaad ku tiirsanaato marka waa arrimaha ugu muhiimsan ee mar walba ay dowladda u banaynaysa in shidaal la helo waana ma aha dowladdan keliya maaha waa dowladaha caalamka oo dhan laakiin su-aasha imaanaysa waxay tahay waddanka shidaal soo saaray ma kulligood ma waddadaanay mareen macnaha sidan oo aan hadda aan sheegayno oo ma dhaqaalay ka heleen ma shaqay ka wada heleen macnaha ma warshadoodii hormaray ma energy ay heleen macnaha ku tiirsanaanshii waddamada kale ku tiirsanaayn jireen miyaa macnaha shidaalka ay heleen daraaddeed ay sidaa u noqdeen jawaabta maya macnaha waxay ku xiran tahay hadba waddanka laga hadlaya ayay ku xiran tahay tusaale ahaan nigeria markii ugu horreysay ee arrimo shidaal ay bilowday waxay ahayd 1908 ayay ahayd shidaal ay soo saaraan macnaha 1956 ahaa macnaha discovery-gii u dhacay macnaha shidaal ay dhoofiyaan waxa ugu horreysay 1958 waxay bilaabeen marka OPEC waxay kaga mid noqdeen 1971 ayay OPEC kaga mid noqdeen ilaa iyo maantana macnaha shidaal way soo saaraan average wuxuu ahaa markii hore 2 milyan oo fuusta maalinta ayay soo saarayeen marka haddii aan soo qaadano statistic ay samaysay IMF ay samaysay 2003 maana waxay leedahay GDP per capita-da maana markii la joogo 1930 waxay taagnaayeen $113 ay taagnaayeen faqriga wuxuu ahaa 36% buu ahaa maana dadka masaakiinta tiradooda marka la fiiriyo 19 milyan ahaayeen labada percent ama 2% ugu sareeyo dadka maana dhaqaalada ugu sareeyo dhaqaalaha ay haystaan waxay u dhigmeen 17% ama 17% dadka hoose ayay u dhigmeen lacagahaas xilliga laga helay 1965 macnaha waxay ahayd ilaa 2 bilyan ahayd macnaha markaad fiiriso marka oo aad u garab dhigto Nigeria 2002 oo almost markaas ay 30 sano ka soo wareegtay markaad ka bilowdana bibar kabitoodi meeshii rabo kor inuu kaco hoos ayuu u dhacay oo macnaha meeshii uu ka ahaa 1113 wuxuu noqday 1084 faqriga macnaha kor ayuu u kacay meeshii uu ka ahaa 36 wuu laba laabmay almost 70 ayuu noqday dadka masaakiinta meeshii 19 milyan ka ahayn 90 milyan ayay noqdeen macnaha dadka taajiriinta ahaa ayagoo dhaqaalooda kor ayuu u kacay markii meeshii hore ay ka ahaayeen dhaqaalooda marka la isku daro ay u dhigmeen 17% dadka masaakiinta waxay noqdeen dad u dhigma 55% lacagta ka soo xarooto marka oo waddanka soo gashay laakiin in total waxay noqotay 350 bilyan inkastoo lacagta soo gashay ay tahay 350 bilyan maana faqrigii waa sii batay maana dadkii sare dadka ama elite-ka ama dadka waxay kor ayuu u kacay dadka masaakiinta hoos ayuu u sii dhaceen marka macnaheedu ma aha Nigeria shidaal in shidaalkii ay faqri kaga baxday ma aha marka waxay ku xiran tahay waddanka inuu shidaal helo waa muhiim laakiin wax badan waxay ku xiran tahay sida loo maamulo iyo sida looga faa'iideysto ayay ku xiran tahay marka macnaheedu ma aha inay isku xiran tahay mar walba shidaal helitaanka iyo shidaal faqri hadda Norway waxaa loo soo qaataa tusaalayaasha ugu fiican ee shidaalka lacagaha shidaalka ay ka heshay Norway waxay ku samaystay maalgelintii ayaa marka hadda waxay dhalaysaa faa'iido ka badan lacagihii shidaalka hadda la iibinaya ayay dhalaysaa soo marka horta wax badan waxay ku xiran tahay annaga dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed hadda sidaan u qorsheysano kheyraadkaas aan filayno inuu dhulkeena ku jiro sidaan kaga faa'iideysanayn marka waxaan rabaa inaan taabto taariikhda Soomaaliya ee arrimaha shidaalka markii ugu horreysay dhul Soomaaliya shidaal lagu arko ee aanay cidna qodin oo xag dabiici ah isaga soo butaacay macnaha wuxuu ahaa 1912 waa meel u dhaxaysa Sheekh iyo Berbera ayaa lagu sheegay inay ahayd markii ugu horreysay waxa loo yaqaan seepage waa in dhulkii ka soo baxo shidaal raadkiisa lagu arko ayay ahayd 1950 ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya ay ka bilowdeen arrimo shidaal oo shirkado kala duwan ay ka bilaabeen inay shidaal ka baaraan inay shidaal ka saamiyaan Soomaaliya laakiin markii uu dhashay macnaha kacaankii badana arrimahaas waa la joojiyey Soomaaliya waxay qaadatay qaabkii loo yaqaan shuuciyada dhaqaalaha wadaagan qaadanay shirkadaha badana shidaalka waday waxay shirkado oo galbeedka ka imaanay marka dhaqaaqii shidaalka waa la joojiyey markii ay dagaaladii 77 dhaceen dalka Soomaaliyeed waa musalafay dowladda Soomaaliya way isbixin waysay then waxaan qaadanay waxaan loo yaqaan structural adjustment program ayaan qaadanay oo nagu kalifayay inaan suuqeena furno oo suuqeena xor ka dhigno iyo waxyaabo kale badan
taa ayaa marka waxay keentay inay shirkadihii galbeedka ay dib u soo laabtaan 1980maadkii manaha shirkadaha ay ka mid yihiin Shell, ConocoPhillips, Amoco, Chevron kuwa ayaa manaha waxay leysana ka qaateen sahmina Soomaaliya ha noqoto waqooyiga Soomaaliya ha noqoto koonfurta Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah badda Soomaaliya inay howlo ka bilaabaan howlihii sahminta ahaa markii la bilaabay nasiib darro waxaa dhacay dagaalkii sokeeyaa dhacay 1991kii kulligood shirkadihii shidaalka ay sheegeen inaanay Soomaaliya ka shaqeyn duruuf ugu shaqeyn karna aysan jirin dan kadib markii uu qarankii Soomaaliya meesha ka baxay mana waxaa abuurmay dowlad goboleedyo inta badan Somaliland iyo Puntland manaha ayaga ayaa bilaabay inay shirkado shidaal ay si gooni ah ay ula heshiiyaan taa ay ahayd agreementyada ama heshiisyadii ugu horreeyay shidaal ee la saxiixay dowladda federaalka ah 2008 ayay waxay samaysay sharciga ugu horreeyay ee petroleum law Soomaaliya ay leedahay oo sharcigii shidaalka u gooni ah waagii hore waxaan qabi jirnay manaha wasaaradda petroolka gooni maan qabi jirtay wasaaradda biyaha iyo macdanta ay ku dhex jirtay laakiin 12kii ayaa sharci gooni ah oo shidaal ah ee la soo saaray kadibna waxaa la sameeyay sharci dastuurka ayaa la sameeyay 2012kii laakiin halkaas waxaa dhacay xogaa iskhilaaf ayaa dhacay sharcigii petroleum lawga 2008 markii la sameeyay fikirka macnaha oo qaab dhismeedka dowladnimo waxa loo dhisay qaab ah inuu yahay centralizer system ama qaab ay dowladda dhexe awood leedahay oo arrimaha shidaalka dhan ayada ay go'aansanayso wax walba ay samaynayso laakiin markii la soo gaaray 2012 markii la sameeyay dastuurka kumeelgaarka arrintu waa la isku fahmi waayay dan waxaa la yiri arrimaha macnaha kaba soo qaad gaashaandhigga dhaqaalaha waxaan dowladda dhexe aan u dayno laakiin arrimaha kheyraadka sidee laga yeelayaa loo maamulayaa waxaa la yidhaah ha laga wada hadlo marka dastuurka qodobkiisa 44 ayaa wuxuu leeyahay qaabka loo wadaagayo loo maamulayo kheyraadka Soomaaliya waxaa ka wada tashan doona dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada halkaas ayay ku kala leexdeen sharcigii petroleumka ahaa 2008 iyo dastuurkii dan marka dowladda federaalka talaabadii ugu horreysay ee arrimaha shidaal ay dib u qaado waxay ahayd Soma Oil seismic agreement-ga lala galay 2013 ayay ahayd sidoo kale Spectrum ayaa heshiis kale jiray 2015 ahaa markii ugu horreysay Soomaaliya ee laga sameeyay data room ee data Soomaaliya ay leedahay Itaalo ayaa 2015 la sameeyay kadibna waxaa ku soo xigay heshiiskii Baydhabo oo ahayd in macnaha qaabkii loo wadaagi lahaa loo qaybsan lahaa in lagu heshiiyo 2009kii ayay dowladda isku dayday inay samayso xaraashkii ugu horreeyay bishii February 7 waa tii London lagu cilaamiyay 8 waa tii la soo bandhigay protocol-kii tender protocol-kii la soo bandhigay laakiin 15 xirmo oo badda ku teedsan oo ay ka soo bilaabanayso galmudug ay ku hooseyso Jubbaland ayaa la soo bandhigay laakiinse wuu socon waayay sababtoo arrimo badan ayaa jiray laakiin ugu muhiimsan waxay ahayd sharciga shidaalka markaas oo dib u eegis ugu sameynay diyaar maanu ahayn arrintii marka waxay keentay in arrintii dib loo dhigo sidoo kale macnaha arrintii waxay keentay xasaasiyad oo Ethiopia ka imaanayso arrimihii maritime-ka doodeedii ayaa macnaha ayda laftigeeda socod tii marka meesha ay ku istaagtay waxaa la soo dhameystiray marka weegistii la soo dhameystiray sharcigii shidaalka 2020kii bishii February 8 ayuu madaxweynaha uu saxeexay kadibna macnaha hadda wasaaraddu waxay iclaamisay mar kale doono license round kale ama xaraash kale oo 7 block la iibin doono oo ku kala yaalo macnaha Galmudug Hirshabeelle iyo Jubbaland ku kala yaalo kaasoo oo ay ahayd inuu furmo 4 bisha uuna soo xirmo 4 August uu soo furmo uuna soo xirmo May 2021 haddaan taas marka waa sawirkii guud ama taariikhdii kooban aan dul maro haddii la yiraahdo dooddeeda aniga waxaan rabaa inta badan in aan u daayo arrimaha policy-ga ah macnaha tan annagana khusayso hadda aan rabnaa inaan aad ugu sheekaysano ma aha taariikh kaliya maaha laakiin taariikhdan waxaan u yeelayaa kaliya dadka inay fahmaan meesha ay soo martay arrimaha shidaalka Soomaaliya maapkan waa maapka Soomaaliya waxyaabaha ka muuqda waa legacy contract areas ayaa ka muuqata sidaad la socotaan annaga markii dagaalada ay dhaceen dhammaan xogtii aan haynay way dhuntay ama waa la bilaqaysay ama waa la gubay ama gacan qalad ay ku dhacday oo waa la waayay tii marka waxay kaliftay inaan samayno wax la yiraahdo petroleum registry in la sameeyo oo hay'adihii dib loola xiriiro oo la yiraahdo xogtii iyo datadii iyo macnaha waxyaabihii communication aad haysaan dib noo siiya sidoo kale
shirkadu waxaa jiray macnaha wadankii haystay qandaraasyo ama heshiisyo haystay laakiin wadanka aan ka shaqaynayn ayaga laftooda waraaqa loo qoro oo la yiraahdo either baxa oo macnaha haddii aadan rabin Soomaaliya inaad ugu shaqaystaan ama nala shaqeeya oo muujiya inaad diyaar u tihiin inaad nala shaqaysaan marka maapka halkan screen-ka kaga muuqdo waa maapkii macnaha blockskii xilligii macnaha wixii ka horreeyay 1991ka wixii ka horreeyay weeye macnaha halkan xeebta oo kale Shell iyo ExxonMobil ayaa haysta iyo blockyadaas kale kadib markii 91kii ay dhacday 2000 markii la soo gaaray East Africa waxaa aad ugu bilowday in badda la saamiyo ha noqoto Kenya ha noqoto Tanzania ha noqoto Mozambique mana xeebtan aniga lagu tirsan oo dhan waxaa aad culayska loo saaray in badda la saamiyo runtiina manaha waa la helay shidaal ayaa laga helay taa ayaa marka waxay dhalisay inay East Africa noqoto manaha frontier cusub Soomaaliya markaas u sii dambeysay geedka ayaan sii xignay labadii marka sahan aan kala sameynay waxay ahayd 2014kii oo Soomaaliya ay sameysay iyo 2015kii oo Spectrum ay sameysay oo badda ah oo ku teedsan from Jubaland ilaa iyo galmudug dhul gaaray oo xeebta ah ayaa waxa laga sameeyay sahan laga sameeyay midii hore waxay 2500 kilomitir midii dambana waxay qiyaasii 28,000 kilomitir waxyaabaha la sameeyay marka nooca sahminta ah waxa la yiraahdaa 2D marka waxay muujiyeen marka natiijada ay muujiyeen inay Soomaaliya potential fiican ay shidaal u leedahay maapkana waa maap kale oo la isticmaalo oo ah oo onshore ah amaanaha ama dhulka ah iyo hore waxay ahayd kan waa dhulka potential marka Soomaaliya marka isteediyada sida hadda loo sameeyay ama Jubaland ha noqoto ama Hirshabelle ha noqoto ama South West ha noqoto ama dhamaan Puntland ha noqoto potential anaha waxay fursad u leeyihiin in shidaal laga helo ay fursad u leeyihiin halkan bidixda waxa ka muuqda waa basiniska ama macnaha area-da inta isku koobanba loo yaqaan ay tahay marka laakiin macnaha mid runta ah oo loo tagi doono waa marka shidaal la qodo ayaa wax loo tagi doonaa in macnaha shidaal ku jiro iyo ganacsigiisa laakiin hadda potential-ka ahayno macnaha waxaa muuqata in Soomaaliya uu shidaal ku jiro shidaalka marka guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood ayaa loo qaybiyaa ah qaybta macnaha dhulka marka laga soo saarayo iyo kadib marka dhulka laga soo saaray marka la dhoofinayo ama laga qaadayo hal meel oo la geynayo meel kale iyo qaybta ugu dambayso ah marka laga ganacsanayo oo ama tariiq loo iibinayo macnaha upstream-ka badana ama wuxuu ka dhacaa bariga ka dhacaa ama bad ayuu ka dhacaa midstream-ka badana inta badan ama waxa lagu qadaa maraakiiba qaado ama waxaa qaado tubooyin ama pipes ayaa qaado distribution-kana macnaha meesha ugu dambeysana waxay ku xirtaa hadba meesha loo wada haddii warshado loo wada iyo haddii guryo loo wada iyo haddii koronto laga abuurayo ayay ku kala xiran tahay oo markaas 3daas guud ayaa loo qaybiyaa annaga marka hadda Soomaaliya hadaan nahay mana downstream hadda aan isticmaasho waa macnaha waxyaabaha aan dibadda ka soo iibsano shidaalka aan soo iibsano aan ku shubano kaydkeena shidaalka markaas aan kadibna aan u soo daabulno ha noqoto kaalmaha shidaalka ama ha noqoto meelaha warshadaha ha noqoto ama waxa aan korontada aan ka samaysano noqoto mana downstream-kaas ayaa jiro manaha midstream Soomaaliya hadda kama jiro oo ah manaha kaalmo oo shidaal oo haamon ama tubooyin shidaal oo qaado oo process marsiya hadda ma jiro hadda kadib ayaa la samayn doonaa haddii la yiraahdo upstream-ka sahan buu asaga joogaa hadda meelo weli commercial galay ma jiro haddaan taas kaga sii gudbo manaha badanaa dadku waxay aad isu weydiiyaan imise ayuu qaadanayaa manaha shidaal markaan damca inaan shidaal soo saaro ama shidaal aan ka shaqeyn inta badan manaha wejiga ugu horeeyo waa wejigan loo yaqaano seismiga ama sahminta wejiga loo yaqaan waayo inta badan kaas 2 sano iyo wixii ka yar ayuu qaataa waa marka xogta la raadinayo kadib marka waxa ku soo xiga exploration-ka marka ama sahminta wuxuu qaataa 1 sano ilaa 4 sano depends xaaladda lagu shaqeynayo waxa ka jira ayuu ka tahay haddii marka uu dhaco discovery-ga oo commercial uu dhaco manaha then markaas ayuu stage-kaas wuxuu isbedelaa manaha 4 to 5 years ayuu isbedelaa kadib manaha waxa haddii lagu guuleysto oo shidaalkii la helo in marka waxa loo gudbiyaa manaha production-ka loo gudbiyaa production-ka badana manaha marka appraisal-ka ama qiimeynta la sameynayo kaasay ku xiran tahay waxa meesha ka soo baxa haddii shidaalka la helo aanu noqonayn shidaal waqti dheer soconayo oo manaha return ama faa'iido soo celinaya waxaa lagu khasban yahay ganacsi ahaan in la iska dhaafo laakiin haddii waqtiga uu soconayo shidaalku uu yahay waqti dheer then marka from 15 years onward wuxuu noqonayaa manaha in shidaalkaas loo gudbo marka average-ka marka 2 sano sahmina
haddii dee xogtaas la hayo kadibna markaas exploration phase ayaa ku xiga oo ah 1 sano ilaa 4 sano and so forth ilaa iyo maanaha shidaalkii oo la soo saaray then shidaalkii markaas la ganacsigeeyo shidaalka marka laga hadlayo afar tiir ama afar lugood ayuu ku taagan yahay oo muhiim ah oo mid ugu horeysa ay tahay dastuurka midda labaadna ay tahay sharciga shidaalka midda saddexaadna ay tahay regulationskii ama macnaha nidaamintii shidaalka iyo midda afraad ama midda afraad uu yahay waxaa loo yaqaan heshiiska lala gelayo shirkadaha shidaalka ayaa midda afraada so afartaas lugood ayuu ku taagan yahay annaga dabcan sidaan la soconno dastuurkeena waa ku meelgaar petroleum lowgi hadda ayaa dib u sameeyey oo hadda ayaa la ansixiyey petroleum regulationska hadda kadib ayaa u baahannahay inaan dhamaystirno sababta maana marka la sameynayo nidaaminta shidaalka waa industry dhan oo gebi ahaan wartid dhan oo u baahan nidaamintiisa ayuu u baahan yahay oo u baahan dhamaystirta sidoo kale government contract ama annaga hadda wixii ka horreeyay 2008 Soomaaliya waxay qaadan jirtay wax la concession agreement oo ahayd manaha adiga noo sahmi then anaga manaha waxaan kugu leenahay cashuur intaasaan kugu leenahay manaha asoon laakiin markii dambe 2008 Africa oo dhan macnaha badanaa ama caalamka oo dhan wadamada soo koraya dhan waxay u wareegeen wax la yiraahdo production share agreement oo ah wadaagga wax soo saarka heshiiska wadaagga wax soo saarka oo ahayd manaha in faa'iido wadaagii la noqdo anaga kaas ayaan sameynay kaasoo hadda laftigiisa u baahan si heshiiska ay dowladda Soomaaliyeed la geli doonto shirkadaha shidaalka soo saaraya waa document muhiim ah kaas ayaana macnaha tilmaamaya wax walba oo ka wada dhaxayn doona dowladda Soomaaliyeed iyo shirkadaha shidaalka xulli manaha waxaan kala sheegnay hadaati in heshiis uu jiray oo shirkada dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen Baydhabo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay dadka Soomaaliyeed matalayo oo ahayd heshiiskii Baydhabo lagu wadaagayo kheyraadka runtii tallaabo fiican ay ahayd heshiiskaas iyo wadahadalkiisa waxaan soo bilownay 2015 soo bilownay wuxuuna soo gabagabay 2018 runtii wuxuu ahaa manaha heshiis wadahadalkiisa uu aad mas'uuliyad badan ee nasaarneed waqti badan aan gelinay soo jiidid badan aan sameynay dabcan heshiiska manaha ma dhamaystirno oo manaha wuxuu u baahan laftigiisa toosin iyo turxaan bixin ayuu u baahan yahay manaha sida hadda uu yahay manaha waxyaabaha hadda la tilmaamayo oo haddii sidiisa loo hirgeliyo oo ka mid ah waxay tahay in kuwa soo hela shidaalka gobolada shidaalka laga helo iyo kuwa shidaalka laga waayo inay ku dhici doonto kala sarreyn aad u sarreyso oo ku dhici karto oo manaha faqriga hadhow aad ugu kala hormaraan as much as 17 times ama 17 jeer ay kala sarreyn karaan ay dhici karto so marka waa waxyaabo u baahan inaan gadaal ka toosino laakiin runtii waxay ahayd tallaabo la qaaday u baahan dhamaystir u baahan hagaajis sababtoo ah manaha anagu arrintii fiscal federalism weli maana soo dhammayn waxyaabaha u baahannahay inaan tegin wax ka mid ah hadda aanu heshiiskaas aanu tixgelinayn maana populationka ma tixgelinayo ama tirada dadka gobolkaas ku nool ma tixgelinayo faqriga ma tixgelinayo maana size ma tixgelinayo maana hadda similar ratios baa uu ku salaysan yahay marka waxyaabaha uu baahan yahay in laga saxayo ka mid tahay sidoo kale heshiiska ma sheegayo inuu yahay heshiis maana waqtiyeysan oo every year 5 years ama every 10 years review lagu sameynayo siduu hadda u qoraya wuxuu u muuqdaa maana mid fixed ah maana taasna khatar ayay leedahay sababtoo duruufaha dhaqaale iyo duruufaha shidaalka laftigiisa way isbedelayaan marka wuxuu u baahan tahay marka in la geliyo clause ah sida lagu bedeli kara iyo cid bedeli karta iyo goorta la bedeli karo ayuu u baahnaan doonaa haddii la yidhaahdo arrintan aan taabtay oo ahayd heshiiska lala gelayo shirkadaha shidaalka sida aan sheegnay Soomaaliya macnaha waxay qaadatay waxaan loo yaqaan production share agreement-ga intana nooc ayaa caalamka ka jiro macnaha kii hore aan isticmaali jirno oo midka ugu sarreeya macnaha concession ayaa la yiraahdaa waxaa isticmaala hadda 59 wadan ayaa isticmaala mid kale waxaa jirto joint venture ah oo macnaha dowladdii iyo shirkadihii shidaalka ay isla wada wadaagayaan 131 wadan ayaa isticmaala mid waxaa jirto service contract ah oo noo shaqeeya annaga wax walba iskala dowladda wax walba ay leedahay boqolkii waa labo kuwa waxaa jirto hybrid ah oo isku dhexsan iyo mid ugu hooseeyo ah mid hadda Soomaaliya ay qaadatay oo 40 wadan oo caalamka oo ay ugu badan tahay Afrika ay wada isticmaalaan waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo muhiimadda doodayda intii hore waxay ahayd in aan idin sawir guud idinka siiyo mana taariikhda shidaalka Soomaaliya soo maray waxyaabaha muhiimka u ah shidaalka ha noqoto dastuurka ha noqoto shuruucda ha noqoto regulationska
sidoo kale mana wadamadii ka faa'iiday shidaalka iyo wadamadii aanan ka faa'iidayn shidaalka ana sawirka gudaheed laakiin anaga duruufeena Soomaaliya ayaan rabaa hadda inta hartay hadalkayga inaan culays ka saaro oo ah mid ugu horeyso ah mana anaga culayska ugu weyn waxna waxay tahay waa policy ay challenge-gana haysto siyaasaddeena culayska xagga amniga ka saaro waa mid ugu horeyso ah waxana wadan ka soo baxay colaad wadan ka soo baxay maana dad aan isaaminsaneyn tallaabo walba oo loo qaadayo arrimaha shidaalka waxa ugu horeeya maskaxda ilmiga ay tahay waxay tahay si aanay u keenin colaad cusub si aanay u keenin colaad cusub policy walba ama siyaasad walba oo la xiriirta oo shidaal looga shaqeynayo maana waxa mid ugu horeyso ah in aanay keenin colaad laba arrin marka iska hor imaanayso ah khayraadka in laga faa'iideysto la rabaa in aan colaad keenin la rabaa marka waxa dhici karto in aanay dadka markaa siyaasadda ku wada jiro aanay isku wada aragti ahayn aanay isku wada qanacsaneen aanay isku meel wax u wadin in maxaa dhacaya marka haddii lagu boodo in shidaal laga shaqeeyo maxaa dhacaya waxyaabaha oo caqabadaha ay ka mid tahay haddii la yiraahdo inta colaadaha ay ka wada dhamaanayaan oo wadanka ka wada xasilayaan sugaa hadii loo okay maxaa wadanka lagu xasilina oo dhaqaalaha hakii ku imaana macaawina miyaa macnaha noqonayso waxa lagu xasilina soo marka waa arrimaha u baahan talaabada ugu horeyso oo mar walba oo dhanka shidaalka loo qaaday in la isweydiiyo la yiraahdo sidee wadankan dhanka shidaalka aan talaabo u qaadnaa ayadoo aan hubinayn inaanay colaad cusub aanay keenin midda labaad oo muhiimka waxay tahay sidee aanan ajnabiga aan isaga ilaalinaa shidaalka sidaan u nahay dhaqaalaha u baahan yahay farsamada u baahan yahay iyo waay aragnimada u baahan yahay lagama maarmo manaha dad ajnabi ah ama dawlad ajnabi ah oo lagama maarmo taa marka mar kasta aad u baahato saameyn ay kugu sameynayaan dabcan dadka manaha Soomaaliyeed hadda ma haystaan awood ay ayaga shidaalku ku soo saartaan ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid manaha farsamo haystaan waxay u baanaanayaan ajnabi sidaan kale ognahay shidaalku waa arrimo aad u xasaasi oo siyaasadda markay imaado saameyn weyn ku leh oo wadamada saameyn faragelin weyn loogu sameeyo marka sidee marka shidaalkeena aan kaga faa'iideysanaa isla markaasna aan u yareynaa saameynta ay nagu yeelan karaan waa arrinta labaad oo culiska haysto dadka hoggaanka ah midda saddexaad oo ah sidee macnaha xiriirka caalamka aan u manage garaynaa ama aan u maamulnaa sidaad la socotaan hadaytan aan xusay markii lasoo bandhigay London 7 Febraayo 2019 macnaha dowladda Kenya dacwo ayay ka keentay oo ayadoo tilmaamaysa in macnaha badii dacwada ay ka socotay lagu soo xadgudbay marka waa arrin u baahan in la maareeyo u baahan soo marka sidee marka su'aashu macnaha waxay tahay sidee macnaha kheyraadkaada kaga faa'iideysataa sidee macnaha isla markaasna aad u maareysaa xiriirkaada caalamiga mid afraad oo ayadana muhiimka waxay tahay sidee dadka kalsoonidooda ama aaminitaankooda aad u hanataa sababtoo ah hantidan waxaa iskale dad Soomaaliyeed ayaa iskale iyaga waa muhiim in dadka Soomaaliyeed kalsooni ay ku qabaan dadka maamulaya sidoo kale in ay dadka laftigooda expectation-kooda la xadido mana dad badan oo hadda markaan isaragno suuqa ku sheekay wuxuu leeyahay mana goorma qamiis qaadanayna goorma macnaha Soomaaliya lacagta la qaybina marka waxay u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed ay laga dhaadhiciyo in macnaha waqti ay qaadanaysa arrintan ayna arrinta sidaas u fududeen oo qamiis la qaatay aysan ahayn ay u baahan tahay marka hore shaqo badan oo sabar badan laakiin in dadka niyad loo geliyo ilaa 3 sano kadib mana waa la taajira waa la faqri baxa mana waa dad si oo simplistic waaye taas macna waxyaabaha u baahan inaan xal laga gaaro oo sidii dadka loo hanan lahaa kalsoonidooda at the same time macnaha expectation-kooda loo maareyn lahaa waa arrinta kale afraad iyo mid shanaad oo ah macnaha arrinta amniga guud ahaan mana wadanka sidaan la socono wuxuu u baahan yahay in la xasiliyo in amnigiisa la sugo in macnaha laga dhigo wadan shidaalkiisa ama kheyraadkiisa laga faa'iideysan karo oo duruufaha saamaxay laga dhigo ayuu u baahan yahay soo marka shantan arrimood waa arrimaha u baahan oo ugu muhiimsan oo dadka Soomaaliyeed marka ay imaado arrimaha shidaalka iyo kheyraadka faa'iideysigiisa dhanka amniga marka ay imaado waa shantan waxa ku soo xiga marka arrimaha value-ga macnaha value waxaan ka wada waxay tahay macnaha waxyaabaha qiimaha u sameynayo arrimahan shidaalka sida hadayku aan bilow sheegnay kheyraadka shidaalka waa wax ku dhex jira dhulka hoostiisa wuxuu u baahan yahay in la soo saaro marka la soo saarana loo bedelo in tangible asset loo bedelo ayuu u baahan yahay oo dadka looga faa'iideeyo ha noqoto dhanka bani'aadamka ha noqoto ama ha noqoto physical infrastructure jidda la dhiso dekada la sameeyo arbooro la sameeyo manaha isbitaalo la sameeyo iskuulaad waxbarasho la sameeyo waxaas loo bedelo soo marka value-gaas bedelitaankiisa
معناها ومن هذا هو مركز عامل كسلون دارو وحقوه معناه وحيد هيدها مثلا دولة هيدها مثلا دولة أيها لفت ود هرت وين كباست ود بلسيها أما أيها لفت ود وين يحمل كلام صابها هذا تصالها هدي عن تسوق هذا وزارة البترول معناها بدل كذا وواحد كير هل مليون لو هل مليون يستحقوا وواحد كير وسنة أوكي waxay la tacaamulaysaa shirkado kaba soo qaad share oo kale ay la tacaamulaysaa oo capitalkeedu uu yahay ama value assetkeedu uu yahay 400 trillion 400 billion sorry 400 billion uu yahay ay la tacaamulaysaa soo marka waa qiyaas kartaa ana share markaad la fadhiisanayso aqoonta ay la imaanayso waayo aragnimada ay la imaanayso dadka ay keensan karto macnaha data ay heli karto iyo macnaha dadka Soomaaliyeed ee marka meesha oo budgetkooda uu yahay wasaaradda intaas tahay manaha marka waad qiyaas kartid soo marka waxa u baahan kow marka hore waxana waxay tahay sidee institutionalski ama hay'adihii matalaya dawladda ee loo dhisaa waa caqabad taalo oo u baahan xal mid labaad manaha fiscal regime manaha waxaan ka hadlayn macnaha waxay tahay sidee ku soo jiidataa manaha shirkadihii ay u maalgashtaan waddanka ayadoo aad og tahay in waddankaada aanu ahayn waddanka ugu habboon oo la maalgashto oo aad u baahan tahay inaad la tartanto wadamo kale inaad la tartanto oo soo jiito haddana at same time waxaad ku khasban tahay inaad waddankii aad waxa ugu fiican aad u hesho oo aysan noqon macnaa waddan la iibinayo ama waddan xaraashi u noqon so marka sidii arrintaas la isugu dheelitiri lahaa oo aad shirkado fiican aad kusoo jiidin lahayd macnaha maalgelin fiican aad ku heli lahayd at same time-na waddankii aad macnaha aad kula tartami lahayd waddamada dariska ama waddamada kale kaafir caalamka hadda shidaalka waddamo badana caalamka laga soo saara almost hadda Africa waa 54 waddan in ka badan xaf hadda shidaal ama macnaha hadda waa soo saareen ama hawshooda ku jiraan marka kuwaas oo dhan ayaad u baahan tahay inaad la tartanto soo marka arrintaas sidaas u dheelitireed waa arrin kale ayada u baahan midda saddexaad macnaha waxay tahay badana waddamada colaadka kasoo baxaya waxaa ku soo hormara oo kusoo degdega shirkado yaryar oo dalaaliin ah ayaa ku soo hormara badana shirkadaha waaweyn most qualified ka manaha kuma soo degdegaan meelaha oo caqabadaha badan ee aad ku jiraan kuma soo degdegaan marka sideed ku soo jiidan kartaa shirkadahaasi manaha sumcadda fiican leh ee la aamini karo sideed ku soo jiidataa markaad hore oo waxyaabaha u baahan in caqabadaha u baahan in xalliyo ka mid tahay sidoo kale khayraadkan laga faa'iideysanayo laftigooda manaha sidii loo isticmaali lahaa waa aydan arrin kale oo u baahan in xal ay u baahan tahay mid shanaad macnaha waxay tahay domestic iyo exportiga labadaba macnaha laba suuqad u baahan tahay macnaha shidaalka marka la soo saaro in macnaha gudaha loo isticmaalo iyo in dibadda loo geeyo labadaba macnaha waxaad u baahan tahay markadii inaad u abuurto ay u baahan tahay iyo sidoo kale in dowladda macnaha dalagyada ka soo aruuro oo ha noqoto wax walba oo quseeya arrimaha shidaalka siday cashuurada u soo aruursan lahayd ayay u baahan tahay si efficient ah manaha in la soo aruuri kari maaha laakiin aruuris manaha oo karti leh ayay u baahan tahay midda kale ku xigta oo ayadana caqabadaha hadda jiro waxay tahay sustainability marka waxaan see loo joogteynaa manaha sidaan ognahay dadkii Soomaaliyeed ee arrimahan shidaal ka shaqayn jiray wixii ka horreeyay 1990-aadkii manaha either waa dad hadda retire galay oo manaha oo howlgab ah ama waa dad aan waddanka joogin ama waa dad aan manaha waqti dheer ka shaqayn arrimihii shidaalka oo aan la qabsan karin marka manaha waa arrin ugu cusub shidaalka hadda dadka hadda jooga oo Soomaaliyeed waa shidaal iyo sida loo qodo iyo sida heshiisyo loo qoro waa arrin ku cusub marka dadka in la dhisa marka bani'aadamkaas in la diyaariyo waa arrin u baahan laba arrin marka dhacayso sida hadda haysta ciidamadeena hadda waxay tahay waxaa la rabaa inay al-shabaab iyo dadka nabadda diidan ee la dagaalamaan at same time-na ee ayaga la dhiso waa macnaha arrin aad u dhib badanaa ciidamada waxaa la dhisaa xilliga nabadda si loo isticmaalo xilliga colaadda laakiin annaga hadda waxaan haysta waxay tahay waxaan rabnaa inaan khayraadkeena ka faa'iidaysano at same time-na dadkeena aan dhisno marka dadka aad rabto inaad dhisto ayaa rabtaa inay ay dhisaan industry-ga ama macnaha hay'adihii shidaalka marka arrin fudud ma waa arrin aad u dhib badan sidoo kale manaha sidee manaha fursado shaqo looga abuuraa aydan waa arrinta kale oo manaha linkage loo sameeyo manaha local content-ga ah manaha dadka Soomaaliyeed shirkadaha Soomaaliyeed maxay soo saari karaan maxay kaga faa'iideysan karaan arrimahan la sheegayo oo dhaqaalaha oo bulshada keenayo sidee kula tartami karaan shirkadahan ajnabiga meelaha suuqgalka ay kala tartami karaan
see loo heli karaa see kor loogu qaadi karaa sidoo kale maanaha shidaal marka lasoo saarayo maanaha saameyn wuxuu leeyahay bey'adeedu leeyahay iyo mid maanaha bulsho ayuu leeyahay inkasta oo maanaha hadda anaga mid aan ka hadlayna badanaa ay tahay mid oo banaanka oo badda ah laakiin still badda macnaha wuxuu leeyahay saameynteedu ayuu leeyahay see marka aan u yareyn karnaa environmentkaas iyo maanaha iyo midda ugu dambayso ah maanaha safety and health maanaha caafimaadka bey'adii maanaha guud ahaan see u sugi karnaa so marka mid maanaha waa mid sustainability ah ama joogtaynta mid waa arrin oo security ah iyo mid ah arrin ah amniga ah so saddexdaas caqabadood waaweyn oo policy level ah ayay dowladdu u baahan tahay marka arrimahan shidaalka laga hadlayo in laga fikiro marka midda ugu dambaysa oo ah maanaha maxaa hadda loo baahan yahay kuwan waa aragtideeda oo ah horta waxa ugu horeysa macnaha waxay tahay waa in dadka Soomaaliyeed ay wax ku heshiiyaan maanaha haddaanay dadka Soomaaliyeed waxba ku heshiin waxa hirgelayo macna leh ma jiraan haddii la sameeyana waxay noqonaysaa wax muqaraad iyo kala fogaansho iyo macnaha keeno marka horta waxaan u baahannahay waa heshiis siyaasadeed waa waxaan u baahannahay then arrimahan fiscal federalization oo ah macnaha maadaama wadankii federaal uu noqday arrimihii dhaqaalaha waa inaan fadhiisino oo aan u fadhiisino qaab federaal ah waa inaan u fadhiisino sidoo kale dastuurkeena qabyada ah waa inaan soo dhamaystirno hay'adihii marka Somali Petroleum Authority iyo maana wixii regulatory regime-kii ayagana waa inaan soo dhamaystirno sidoo kale shirkadii shidaalka Soomaaliyeed waa inaan samaysano oo waxyaabaha aan u baahanahay waxaa jirta shuruuc fara badan oo ay ka mid tahay shuruucda beeyada environment ay ka mid tahay iyo institutionno ay ka mid tahay environmental agency oo kale oo aad loogu baahan yahay inaan samaysano ayaa ka mid ah waxaan u baahanahay civil society wacyi la socota ka warqabta wadasha arrimahan shidaalka mana hadda Kenya mana civil society-geeda marka imaado arrimaha shidaalka aad ay markii hore lama socon laakiin marka dambe si fiican ay uga qabsadeen marka sababtoo ah bulshada Soomaaliyeed ayaga ah mana dadka indhaha u ah so marka waa inay jiraan hay'ado ka madax bannaan hay'adaha dowladda oo la socda arrimahan oo ka warqaba iyo midda saddexaad oo ah waxaa jirto initiative ama macnaha hay'ad la galo oo laga mid noqdo oo badanaa hay'adahan macnaha waa hay'adaha lagula dagaalamo musuqmaasuqa taan marka waxay naga caawinaysaa in macluumaadka khuseeya arrimaha shidaalka heshiisyada shidaalka mana dakhliga shidaalka in la daabaco oo dadka Soomaaliyeed ay wada arkaan oo ka wada ay la socdaan oo qof walba macnaha meeshiisa asagoo joogo oo macnaha uu kaga qanco waxa wadankiisa laga helay waxa wadankiisa ka soo baxay waxa lagu sameeyay iyo sida loo isticmaalayo marka haddii la yiraahdo hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynaa inta waxaan inta dambe aan u samaysanayna haddii la yiraahdo wixii su'aalaha iyo jawaabaha iyo sidoo kale wixii macnaha fikradiina waa mahadsantihiin aad baa umahadsantihiin aad baa umahadsantihiin mudane wasiir runtii waxay ahayd muxaadaro aad yani martay in marsiisay safar xiiso badan taariikhda hanka Soomaaliyeed shidaalka in maraaxishii uu soo maray ilaa iyo heerka policy levelka caqabado iyo fursadaba ah runtii si fiican u dul istaagtay waxaan qabaa in asxaabta nagala soo qaybgashay barnaamijkan ay su'aalo aad u badan qabaan waxaan rajaynayaa inaan intii tabarteen ah daboolno waxaan ka cududaaranayaa laba arrimood marka hore waqtiga wasiirka mudane wasiir hore maxamed mukhtaar uu qaatay oo runtii ka batay xilliga loogu talagalay haddana mawduuca macaankiisa iyo xiisaha uu noo leeyahay dartiis aanu kala maaganay inaanu ka joojino waqtiga waxaan kale oon ka cududaaranayaa dhinacayga oo marmar cilad ka jirto oo marmar aan daqiiqad ka maqnaanaya khadka ayadana insha Allah waxaan rajaynayaa in aad igu dulqaadataan intaa kadib mudane wasiir waxaad runtii ka hadashay haddaan aniga kugu bilaabo su'aalaha waxaad ka hadashay marxalad waxa loo kala qaybin karaa Soomaaliya shidaal ma u baahan tahay inay hesho iyo haddii ay hesho maxaa laga yeeli karaa runtii waxaan u kala qaybin lahaa labadaas su'aasha ugu horeysa oo qof kasta maskaxdiisa ku jirta oo mudane wasiir aan ku weydiinayo waxa weeye dhaqaale ayaad ku beesgaraysay inta ugu badnayd yani ama dhaqaale dadku ay helaan ha noqoto ama ha noqoto dhaqaale ummadda Soomaaliyeed ay manfaacadsato oo
يعني معيشة نولشة iyo waxa la yiraahdo yani human development index ama yani معيشة qofka noloshiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa badqabkiisa kor u soo qaadaysa iyo noloshiisa matqana maqaamkeeda in waxaan la soconaa Soomaaliya inay leedahay wax la yiraahdo traditional sectors ama hay'adaha wax soo saarka ee soo jireenka ah oo runtii hadda marka waxaan wax badda ku jira ama dhulka hoostiisa ku jireen wax banaanka yaala ayaa jira oo ah kalluunkii iyo beerihii iyo xoolihii oo intaba la sheego in Soomaaliya hadii ay intaas ka faa'iideysato wax badan ay ka qaban karto in taasna aad ogtahay wax lagu qiyaaso in aan laga faa'iideysan wax xataa dhan 5% marka hadii intii muuqatay oo khilaafka uu ka taagnayn oo iska sahlanayd ay yani dhibka intaas laga maray oo laga faa'iideysan la yahay oo potentially heerka la gaarsiin la yahay kan marna dhulka hoostiisa ku jira cilmiga iyo aqoonta u baahan tirada badan ilaa iyo hadda 15 sano u baahan tahay in maalinta la bilaabo ilaa la soo saaro ilaa iyo maxaa la yiraahdaa ama khilaafyada tirada badan iyo wixii hadda Nigeria ka dhaca ka sheekeynaysa hor yaalaan dadka iyaga kale su'aalo badan keeni doona qaarna waa soo qoreen sidee maxaan aha loo isugu keeni karaa arintaas yani maxaa degdegan keenaya Soomaaliya aabo kan yar iga cilana ka weyn isaga filan wasiir adan kugu soo celinaya kadibna su'aalaha waxaan u bixin doonaa shan in markastana markii loo baahdo su'aal follow up insha Allah ana soo dhaxgali doona wasiir ku soo dhawo markale waad mahadsantahay adoo fadlan ku soo koobaya jawaabta sida ugu kooban ilaa 3 daqiiqo maximum waa mahadsantahay isaga in labada dhinac horta laga faa'iideysto waa sida ugu fiican laakiin anaga laba ciladaan haysato oo ah in traditional sector-ka Soomaaliya hadda badan dhaqaaleed uu ku saleysan yahay xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga waxay u baahan yihiin maalgelin u baahan yihiin su'aasha markay maanayso waxay tahay marka wadan raba inuu dhaqaalihiisa aad u kobco waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo macroeconomic trigger oo ah in dhaqaalihi hal mar dib weyn la siiyo marka sida hadda aad la socoto dad badan oo Soomaaliya isku dayay inay beerihi ka shaqeystaan dad badan isku dayay inay kalluumaysiga ka shaqeystaan laakiin waa wax aad u yar maana in wadankan dhaqaalihiisa uu dib weyn siiyo waa adag tahay marka waxay u baahan tahay marka maana investment waa weyn shidaalku waxyaabaha uu sameeyo waxa kamid ah wuxuu soo jiitaa maalgelin weyn ayuu soo jiitaa laakiin waa in maalgelintaas aanay gadaal u riixin industry intiisa kale hadda tusaale data Nigeria soo qaato kale maanaha 90% maanaha dakhliga dawladda wuxuu ku tiirsan yahay shidaalka laakiin nasiib darro wuxuu sameeyay industriyadii kale dhan ayuu hoos u geliyay ayuu hoos u riixay ayuu maana saameyn ku sameeyay marka waa runta in industry-ga jira hadda tusaale ahaan neefka ariga haddii aan ka soo qaado $100 oo kale hadda si aad la socoto waa la kobcin karaa waa la dedejin karaa waqtigiisa maanaha waxa laga faa'iideysanaa waa maqaarkiisii waa lafihiisii waa hilibkiisii maanaha dhammaan waxyaabo laga faa'iideysan karo okay cimrigiisuna waa tiradan waa la badin karaa laakiin shidaalka tiradiisana ma badin kartid soo saaritaankiisana ma dedejin kartid marka caqliga suuban uu sheegayaa in traditional economy maanaha la yaqaan laga faa'iideysto laakiin wax diidaya ma laha kheyraadka in laga faa'iideysto ogow waxa laga yaabaa 30 sano kadib in caalamka shidaal aan wax macna uu ugu fariidin oo alternative energy la helo marka haddii aan dhahno hadda aan iska haysano 10 sano soo socotana aan sugno dan su'aasha imaanaysa waxay tahay 10 sano kadib waxa laga yaabaa caalamka in teknolojiyadii gawaarida ama macna waxyaabo badan loo isticmaalo in laga gudbaa dhici karto 30 sano gabi ahaanba caalamka oo dhan ka maarmaan dhici karto shidaal marka labadaas alternative anagana marka inaan dhulka hoos loogu jiro oo aan waxba ka faa'iideysan 30 sano soo socdo waa wax macna badan ma sameynayso laakiin labada inaan isku dheelitirno waa maasinta waayahay waxaan siinayaa Abuukar Warsame ayaan unmute gareynayaa Abuukar Warsame gacanta u taagan tahay fadlan soo dhawo Abuukar Warsame waayahay Abuukar kuma jiro aan siiyo Bashiir Maxamuud baan siinayaa unmute ka bax waan ka baxan filayaa waayahay Bashiir soo dhawo walaal okay thank you very much walaal horta inta meesha ku jirto dhan waa wada salaamaya mar rabo hadalkayga inaan badiyo
aad baan u jeclaan lahaa inaan maxaa ku dhahaa arrimo badan aan ka hadlo sababtoo ah 12 sano baa waxaan difaacayay Lotte 7 iyo shidaalka Norway ay daba taagan tahay horta hore waan isku sheegayaa magacayga waxaa la dhahaa Bashiir Maxamuud waxaan ka soo shaqeeyay safaaradda Sweden Stockholm Scandinavianka xilligii uu Cabdullaahi Ciise uu safiirka ka ahaa waagaasna shirkaddii ugu horreysay oo Norwegian-ka ahayd Western Gecko baa shidaal baaris ka samaysay Soomaaliya aniguna goobjoog baan ka ahaa oo markaas Cabdullaahi Ciise uu Soomaaliya imaanayay si arrintan shidaal baarista Western Gecko oo u soo xaliyo aniga waxaan meesha ka sii noqday si hay'adii safaaradda oo si fiican baan arrintaas ula socday horta hore muhiimadda ugu weyn oo ummadda Soomaaliyeed aan rabay inaan u sheego waxay tahay shidaal Soomaaliya inuu ku jiro oo maxaa ku dhahaa 3D seismic survey ay samaysay Western Gecko oo positive ahaa oo laba god oo waaweyn ay ka heleen anaa goobjoog ahaa oo shirkadda Western Gecko baa noogu sheegtay safaaradda laftigeeda marka surveygaas inay heleen warbixintii aan ka sameeyey ayadoo cod ah iyo ayadoo qoraal ah wuxuu ku dhagan yahay Somali Talk 2009kii Soma Oil ma jirinin maxaan ku dhahaa Spectrum ma jirinin shirkadahan dhan oo hadda maanta wada ordaya meesha wada jirin markaan aniga raboorkaas Somali Talk aan ku soo dhejiyay 2009kii dib baa ugu laaban kartaan sida clearka oo u sheegayo mar raba hadda waqti inaan halkaan kaga lubiyo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed comment iyo su'aalba fadlan soo koob waa soo koobaya ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego in Norway ay maxaa ku dhahaa ay ka dambayso badda Soomaaliya inay 12 nautic mile ay ku soo koobto sababtana waxay ahayd isla shidaalka laftigiisa very disappointment bay waxay ka qaadeen waagii maxaa ku dhahaa kacaanka markuu ka joojiyay shidaal baarista waxa isku wada goobtay shirkadihii kale oo meesha Soomaaliya wada joogay baa ku wada goobtay oo waxay dhaheen shirkad kasta oo badda ku beegan ilaa 200 mayl bay xuquuq u leedahay marka waxay dhaheen annaga maxaan ku dhahaa overlapping contract baa meeshii imaanaya sababtaas baa Norway looga joojiyey Norway 10 milyan oo dollar bay ugu talagashay Soomaaliya inay shidaal baaris uga samayso from Raskamboni ilaa iyo Transcaster surveyga ugu horreeyay markay sameeyeen ilaa iyo Hobyo from Raskamboni ilaa iyo Hobyo waa markay noo sheegayaan in laba god intaas inay ku jirto baa laga joojiyey safaaradda inoogu yimaadeen waxay dhaheen nuxurka ma aadi kartaa in 2 daqiiqo okay nuxurka waxaan jeclaanahay inaad su'aal qabtid su'aasha ina aadid waxaan ku khasbanahay inaan nuxurka iyo su'aasha iyo nuxurku waxay tahay Norway waxay go'aansatay bal intaysan shidaalka baaristan dhan aysan galin inay badda Soomaaliya ku soo koobto 12 mayl oo Lotte 7 oo ay disappointment ka qaaday inay halfaa u qaaddo ayadaan ugu horreysay ayadaan waxaan oo dhan ka dambeysay 2006 bayna waxay kala xariireen Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariiste wuuna ku diiday wuxuu yiri annaga sharci baa noo jira ma geli karna arrintaan dowladihii kale oo dhan baa laga soo wada dhamaystay marka aniga midda aan difaacayo waxay tahay shidaal baaris ha noo soo saaro Norwegian-ka waa ogahay inay shirkad weyn ay tahay laakiin anigu ayaka waxaan uga soo horjeedo ma ahan inay shidaalka sida aysan soo saari karin shidaal waa soo saari karaan ha ka daba hareen sharcigeena Lotte 7 ay hilfaa u qaadayaan badeena 12 mayl ma ahan meel kastay ku qoran tahay 12 sano baan ka daba ordahayay intaas oo aan xildhibaanada dhan aan mid marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxay tahay sababta loogu saleeyay sharciga petroolka iyo sharciga maxaa ku dhahaa kalluumaysiga 12 mayl EEZ ayadoo weli ay ku dhagan tahay Lotte 7 qaramada midoobay oo weliba maxaa ku dhahaa proofyo badan aan u hayno in Lotte 7 uu weli jiro taas baa anigu weydiinayaa maxay tahay sababta ku kaliftay inay Lotte 7 hirfaa ay u qaadaan oo inkiraan maxay tahay sababta wasiir waxa weeye su'aasha maxay tahay sababta loo 27 miya loo joojiyay 27 waaye aad u maadsan tahay waxaan ka codsanayaa farsamada inay unmute garayso waxaan akhrinayaa shan baan u qaadayaa soo qaybgalayaasha raalli naga ahaada waxaan mar kale idinka codsanayaa
laba daqiiqo inaad ku soo koobtaan waa ogahay inuu mashruuca mawduucan yahay mawduuc aad iyo aad muhiim u ah waan ogahay dadku inay in badan maskaxdooda ku jirto inay hadlaan fadlan haddii lacala su'aal aa qabtid laga hadlo oo qof kala weydiiyo ama su'aashaada soo bedel ama u yiilgaree qofka kugu xiga si ay macnaha waqtigaan u beekaansano su'aasha aan akhrinayo waxa weeye hadda waxaa noo soo qoray xildhibaan cali cumar wasiirka waxaan weydiinayaa buu leeyahay heshiisyada lala galay Soma Oil iyo Spectrum in uu faahfaahin ka bixiyo dheeri ah intii uu ka sheegay waajibaadka iyo adeegyada aan kula heshiinay in ay noo qabtaan maxay macnaha aan uga bedelanay shaqada ay noo qabanayaan weeye waxa aan kula heshiinay in ay naga helaan ama naga faa'iidaan maxay tahay 12 baloog ee mar walba la soo hadal qaado Soomaaliya miyay ku tahay in ay Soma Oil siiso macnaha Soomaaliya Soma Oil siinaysa ayaan u qaatay Soma Oil waxay hawsha dhamaysay xilligii aad wasiirka ahayd ayuu yiri maxaa hakiyay oo dalabkoodii 12ka aad u diideen fariintaas waxaa soo qoray cali cumar waa qofka labaad waxaan siinayaa qof gacanta u taagan tahay in gabar baan raadinayaa raalli ahaada waayahay wajido maxamed goodir fadlan soo gal waa waayo hadda gabar ay ugu soo bixi weyday maxamed goodir fadlan qaado mikrofoonka hadda maqlisid waa mahadsan tahay wasiirkana waa mahadsan yahay warbixinta waa maqashaan Soomaa waa ku maqlaynaa fadlan ku soco 2 daqiiqo fadlan 2 daqiiqo okay wasiir maxamed mukhtaarna aad u mahadsan yahay master bashir waxaan ka qancinayaa aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka 9aad sharciga oo kalluumaysiga ragga qoran waa ka mid ahaa kuma base gareysna arrinta badda kuma base gareysna ee kalluumaysatada iyo qaabkooda uu ku base gareysan yahay abradas oo midda kale waxaan weydiinayaa hal su'aal maxamed waxaan ka mid ahaa ragga qaba in kheyraadka dalka laga faa'iideysto lana soo saaro waxaase weydiinaa waxaan ognahay in loo baahan yahay political agreement waxaan ognahay heerka biseelka dowlad goboleedyadana ay maanta taagan yihiin in mid walba markay wax yar dhacaan uu yiraahdo ana xuduudayda lama iman karo sidee loo maareyn karaa arrintaas anagoo og xogta dhabta ee ka taagan dalka laguna soo saari karaa shidaal saysan gacmo ajnabi aysan gacanta ugu dhigin anagoo og ammaankeenna maanta inaan ku filnayn waa ka baxay aad baad u mahadsan tahay mudane bishaar shirwac fadlan soo gal bishaar shirwac عليكم والي مغلا سوماهن والله مغلا ها لما بدو كسو كفضلا عدد ما سنتهاي سلوى وسير كنا أدو ما سنيعي دمانتنا وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسير كحق في عمبنا اللو ذاقي ورنتي يعني قفل بقى عاو مشان كجرا وكفى إذا مركز وسير كهو ما حد علينا يا سؤالي أنا عن قواعد وحيتها هاي أدام Soomaaliya hadda la leeyahay yani barnaamijkan hadda laga sheekeynayo oo shidaal baarista iyo in waliba mustaqbalka laga soo saaro shidaal oo hadda yani barnaamij socda uu yahay waxa ugu badan in laga soo saaro ay tahay la sheegayo oo yani badda meel kamid ah hadana wadan kale oo diris aan nahay uu muran nagala dhaxeeyo si loo ogsoon yahayna ay jiraan qorshooyin meesha looga saarayo sharcigii badda Soomaaliya laguna bedelayo waxa loo yaqaano EEZ iyadoo Soomaaliya ay lahayd 12 waxaan leeyahay 200 oo ah territorial water 200 nautical mile oo ah yani territorial water haddana la doonayo in lagu soo koobo 12 mile marka wasiirka arintaas wuxuu kala socdaa su'aashaas aan rabay inaan weydiiyo waa mahadsantahay waa mahadsan tahay in ku soo noqdo ninka la yiraahdo Abuukar Warsame oo markii dhaweyd maqli waayay isaga aan ku bilownay waa fadlan Abuukar Warsame aan mid ka qaad mudane Xasan Abuukar mana maqlaya
abuukar markii labaad oo aan siino waaye mar labaad buu soo codsaday haddana mana soo gelin marka waqtigaa nagu socda abuukar haddaadna maqlaysid soo gal haddii kale aan soconaynaa waayahay qofka shanaad waxa weeyaan qoraal ayaan aadayaa waxay ka timid mudane cali xaaji warsame wasiirkii hore waxbarashada puntland waa su'aal aad moodo in runtii laga jawaabay laakiin waa muhiim waan iskaga celinayna wasiirku hadduu kelmad ama laba ka dhigi karo waxay odhanaysaa iyadoo ay muhiim tahay in shidaalka dalka la soo saaro taasuu kugu raacsan yahay duruufta dalkeena ka jirta oo heshiis la'aan siyaasadeed iyo bulshaba ay jirto al-shabaab oo dalkii in badan haysata amni xumo iyo doorashooyin hadda soo dhow maxaa hadda khasbaya in lagu degdego arrinta shidaalka waa arrin aad ku soo hadashay marka shantaas ayaan ku daysanaynaa bal si kooban mudane wasiir soo dhowow bismillahi rahmaani waa mahadsan tahay bashiir walaal aniga wax badan kalama socdo sharciga kalluumaysiga laakiin waxaan filayaa xildhibaan goodir inuu arrintaas wax ka yiri laakiin waxaan kuu sheegayaa sharciga shidaalka ee hadda la ansixiyey ama kii hore maanaa meeluu kaga hadlayo uu leeyahay nafta almaanka badda waasaan maanaha ma aha shidaalka asaga ma go'aamiyo mana xadido sharciga shidaalka ma xadido mana go'aamiyo badeena inta ay noqonayso shaqo malaha marka ma filaayo meeluu sharcigan ku sheegayo badeena 200 nafta mayla ama 200 nafta mayla maanaha ma jirto marka arrintaas maanaha waxaan filaa inay intaas kaa shaafiso haddii aan u gudbo su-aasha ah xildhibaan cali cumar Summer Oil 2013 heshiiskii lala galay seismic option agreement ayaa la yiraahdaa oo ahayd inay Summer Oil samayso sahmin badda Soomaaliya ka samayso oo ahayd markaas markii ay burcadbadeed Soomaaliya ay aad ugu jireen xilli ayay ahayd inay ka samayso kadibna markaas inay soo dalban karto 12 block oo tixgelin ay mudan tahay hadda u fiirso ma aha 12 block ayaa la siinaa ma laakiin 12 block ay tixgelin ku mudan tahay ayuu ahaa spectrum ayadu waxay kaga duwaneed macnaha waxay tahay inay seismic ayadana sidoo kale sahan ay samayso oo xog ay soo ururiso laakiin xogtaas ay noo iibiso oo faa'iidada ka soo baxda dowladda Soomaaliyeed iyo shirkadda ay wadaagaan halka Summer Oil ay ahayd qarashka ayaga inay bixiyaan oo seismic lagu sameeyay ee qarashkeeda bixiyaan laakiin in return ayada ay soo dalbato 12 block ay soo dalbato so marka 12 block mar walba la maqlayo horta waa taas ayay ku sareysan tahay okay taa marka maxaa marka 12 block ay soo dalbatay maxaa ku dhacay 12 block ay soo dalbanayso Summer Oil waxay la mid noqonayaan shirkadaha kale waxa ay marayaan oo ah BSA-ga ama production share agreement-ga ee lala galayo shirkadaha caalamiga kale ayay ayadana dhinac ka mid noqonaysaa ayada waxa kaliya oo different-ga ay ku macnaha waxay tahay inay mudnaanta broadcast ay rabto ay sheegato laakiin heshiiska lala galayo kama duwanaana heshiiska lala galayo share kama lala gudbana ExxonMobil oo inay shirkada lala gudbana ma geli karo so marka waxa dib u dhigana macnaha waxay tahay Soomaaliya diyaar ma macnaha anaga hadda sharciga hadda baa soo dhameystiray production share agreement-ga hadda ayuu soo sameynaya hay'adihii nidaaminta oo regulatory agencies-ka hadda baa la sameynaya marka wax alaal wixii shaqo oo shidaal ku sii mana wax hore u soo dhamaaday ma jiro waa wax hadda muddo hawshooda ay socoto marka taas ayaa keenay in dib loo dhigo waxyaabaha marka oo ayaga aan looga faa'iidayo macnaha marka xilligaas waxay tahay in Soomaaliya caalamka ku sii jeeday badda Soomaaliya macnaha waxa loo kala cararay burcadbadeed marka in la keenaba in la yiraahdo macnaha badda Soomaaliya waa laga shaqeyn karaa taa marka maxay dhalisay maanta in Shell iyo ExxonMobil ay diyaar u yihiin ama idaneynayaan sida aad la socotaan anaxas waxay yidhaheen waxaan dhiibaynaa ratigaan iska dhiibaynaa waxaan diyaar u nahay inaan dhulkeeni aan danaynayno oo macnaha aanan dhihin Soomaaliya waa ka bixinaa marka arrintaas ayaa macnaha Soomaali ahaan aan ka faa'iiday kow industry-ga laftigeeda inuu soo noolaado oo dad Soomaaliyeed maanta la tababaro oo loo tababaro in macnaha sida xogta loo ururiyo loo tababaro macnaha sida xogta loo fasiro dhalinyarada waxaa la geeyey Masar caalamka wadamo badan ayay tababaro u kala tageen marka laftigeeda macnaha waxay noqotay industry macnaha inay jirto oo bilow ha ahaato laakiin inay abuurto laftigeeda taas ayaa keentay laakiinse wax heshiis ah oo macnaha oo hore loo siiyey oo leeyahay Summer Oil heshiiskaas iskale ama cid kale iskale ma jirto qaybta marka oo spectrum
aniga marka horta waxaan kaga tegey qaybtaas xog ururinta ayaa kaga tegey laakiin waxaa jirtay qaybka dambe iga dambeysay oo dowladdan cusub ay samaysay oo ahayd maanaa arrintan license roundka ah oo arrintan xarashka taas way iga dambeysay gadaasha ayaa la sameeyey oo ah in macnaha markii London lagu soo bandhigayay waxay 2019 bishii February annaga xukunka waxaan ka tagnay bishii April 2017 ayaan xilka wareejiyey marka taa way naga dambeysay taasna macnaha intaan kala socdo waxay ku salaysnayd in 15 block la iibiyo runtii macnaha wadan hadda arrintii maana hirgelin dib ayaa loo dhigay hadda waa middan cusub oo shalay inay furantaa oo 7 block ayaa laga dhigay oo Spectrum marka waxaa iibsaday shirkad ayaa iibsaday oo TNG la yiraahdo taas ayaa hadda heshiisyadii ay kula jirtay dowladda taas ay kula jirtaa shirkadaas ay kula jirtaa marka haddii la yiraahdo taas sababta haddii uu gudbo shirwac manaha arinta ah maxamed goodir ayaa manaha okay waa maasantahay haddii aan u gudbo xildhibaan goodir manaha dabcan sida fiican horta waxay tahay dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan wax walba oo aysan dadka Soomaaliyeed ku heshiin hadalkayga marka hore waa ku bilaabay caqabadaha ugu horreeya macnaha waxay tahay waa caqabadaha amnigana macnaha waxa ugu horreeya inaanan colaad ku laaban macnaha shidaalaan raadinayna intaan leenahay waxbaan faa'iidaynaa intaan leenahay inaanan khasaarino wadankii aanan dib u celin oo dadkii Soomaaliyeed aanan samayn soo marka horta taas macnaha waxay u baahan tahay qaangaarid siyaasadeed annaga inaan muujino kaba soo qaad hadda inaba heshiiska lagu gaaray 2018 bishii June 5 kadib marka laga soo laabtay dowlad goboleedyada waa kala hadleen macnaha waxay qaraa waxay yiraahdeen ku jirno ana hadda qarsoodi maaha dowlad goboleedyada ayaan ku faraxsanahay sidii ku socdaan oo meel cad ka istaag soo marka arrimahaas oo kale mana dhiirigelinayso dad in imaan kastaan wadankeena sidoo kale annagana ma dhiirigelinayso khayraadkeena inaan ka faa'iidaysano marka waxa kaliya loo baahan waxay tahay waxaa sharciga shidaalku sheegayaa in la sameeyo guddiga khayraadka amniga qaran oo ah inuu prime minister ka jeergareeyo inuu ku jiraan xubnana ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada wuxuu u dhigmaa midka national security council macnaha golaha amniga u dhigmaa meeshaas ayay tahay wax allaale wixii shidaal ama khayraad kuse meeshaas in looga wada hadlo dabcan secretariat waa in loo yeelo oo macnaha arrimihii oo farsama ka caawiyo marka haddaanan anaga ka wada hadlin wax shidaal iyo ama macnaha wax kaloo horumar aan gaari karno malaha marka waa kula qabaa in ay macnaha inta wax lagu heshiiyo haddana dib loo laabto oo la yiraahdo kumaanan heshiin haddana hore loo socdo macnaha dee waxay keenaysaa inaan maalgashano way keenaysaa oo maalgashayaasha ay sirmaan sidoo kale way keenaysaa annaga laftigeena inaan sii kala shakino oo cuqdo aan kala qaadno oo dhibaato cusub oo khayraadkii aan filayna inuu noo horseedo waa suurtagal bashiir arrintan ah badda annaga iyo Kenya isku hayn arrintaas horta maxkamad ayay taalaa mana arrin ku xiran macnaha nafta kalmayna ma manaha annaga waxa isku hayna waa land dispute manaha area dispute area and specific ayaan isku hayna oo aan leenahay xariiqda qoran ay leedahay hala joojiyo qoran ay leedahay xariiqda hala jiifiyo marka maxkamad ayaa iskale manaha judgmentiga dowladda Soomaaliyeed dacwada way gudbisay keiskii maxkamadda ayuu yaalaa marka waxaa best option horta waxaa waa annaga noo furan inaan macnaha aan maxkamadaas sugno marka taasna shaqo kuma laha manaha arrintan oo 12 Maalin shaqo kuma laha arrinta cali xaaji uu ka hadlay waxay u eg tahay arrinta uu xildhibaan goodir ka hadlay oo ahayd manaha waddanka haddii aanu xasilooni siyaasi ka jirin oo adag ka tahay in xasilooni nooc kastoo kale ka jirto mid dhaqaanaan ka jirin mid amniyaan ka jirin mid kaleaan ka jirin soo marka horta taas waa arrin cad oo kula qabo arrinta oo license roundka runtii waa kula qabaa manaha waxyaabo badan ayaa u baahan inay horta hor dhacaan den markaas kadib license round ku yimaado mana ani aragtida shakhsiyadeed mana license round mana waxa habboon inuu gadaal ka yimaado aanu ka horreey sharciga hadda tusaale ahaan madaxda sheegnay mana February ayaa la isku dayay in xaraashka la sameeyo sharciga shidaalkana diyaar ma sahin sharciga shidaalka waxa madaxweynaha u saxay xaraashka waxa la isku la bilaabay February 7 2019 actually madaxweynaha wuxuu sharciga batroolka saxay February 8 2020 soo marka sida suuban waxa waaye in marka hore uu horeeyo shuruucda agencies-ka uu horeeyo sababtoo annaga waxa naga maqan aqoontii naga maqan aragnimada naga maqan farsamadii naga maqan mana waxyaabahaas oo dhan inaan diyaarsano oo annagoo dhammaystiran kuwa sidoo kale aan ku heshiino manaha fiscal federalization-ki manaha lacagahan imaanaya haddayba yimaadaan sidii aan u wada yeelan lahayn oo national budgetka aan u wada samaysan lahayn budget guud aan u samaysan lahayn
marka dabcan waa habboon tahay in la kala hormariyo oo macnaha anaga aan horumarsano waxyaabaha anaga noolaga baahan yahay oo qaran ahaan iyo bulsho ahaan si khayraadkan aysan dhinac noogu keenin waa mahadsantahay waayahay waxaan qaadan doonaa 5 kale waxaan marka hore siinayaa muna fadlan soo dhawow هلا السلام عليكم مقلسان fiican waa ku maqalnahaa si fiican wasiirka marka hore waan salaamayaa uu ku mahadsan yahay waqtigiisa uu siiyey iyo adiga laftigaaga walaal soo xiray barnaamijka aad iyo aad baan horta idinka mahad celinayaa magacayga muna la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada London waxaan rabaa inaan 2 su'aalood weydiiyo wasiirka oo su'aasha u horeysa waxa weeyaan Soma Oil Gas markii contractiga laga galayay halkaan aniga ku sugnayn waan joognay qaabkii ku dhacdana waa ognahay contractiga Soma Oil Gas markii la galayay anaga ma haysan wax la yiraahdo national law sharci waxa jiro national law la dhaho iyo international law marka hadii wadanku wuxuu leeyahay wax la national law oo ah markii hadda wadan la galaayo wax waa inaysan hal sided ahayn contractigu laakiin laba sided yahay madaxweynaha halkan loogu yeeray contractiga Soma Oil Gas buu galay database-ki oil-ka dhan baa lagu wareejiyay spectrona la keenay ka bacdina saasay heshiisku ku dhacay baarlamaanka lama marin waxaana ku xusan inay shidaalka 90% Soomaaliya ay ka yihiin mas'uul marka oo ay iyagu xaraashi doonaan gadayaan iibgeynayaan su'aasha rabo marka inaan weydiiyo markii aan hadda uu shirka ka dhacay London waan joognay oo ceelash lagu xaraashiyay sidoo kale dad random baa laga gadaayay each ceel waxa la yiri waxa lagu gaday 2 milyan maxay tahay reasonka dadajinta Soomaaliya ku qasbayso inay horta ceelash la xaraasho oo lala degdego annagoo aan haysan amni oo haysan ciidamo qaran oo dalkeena ilaaliyo aan haysan kuburo shidaal oo shidaalku wuxuu keeni karaa khatar badan sida hadda hadii oil leak dhaco inshore kuma jirno wadankeena xoolaha haysana iyo kalluun marka maxay tahay horta dadajinta tirada badan oo ku jirto oilka ayaa rabay inaan weydiiyo questionka hore ayaa rabay inaan weydiiyo questionka labaad aan rabay inaan weydiiyo wuxuu dhahay wasiirka arrintan xiriir lama laha shidaalka arrinta uu Bashiir Maxamuud ka hadlay oo ah in macnaha ESZ biyaha hadii laga dhigo iyagoo territorial water ah wuxuu dhahay wax xiriir lama laha waxa weeyaan wadada ma toosinaa mise ma qaloocinaa taas la isku haystaa maxkamadda loo gudbiyay basically anaga waxaan leenahay sharci la dhaho sharciga qaranka oo la dhaho law number 37 sharcigaas wuxuu ahaa sharcigii xildhibaanadii hore oo Soomaaliya ay soo difaaceen waqtigii road map-kana ESZ-ka xildhibaanadii hore oo 345 gaarayso ayaa ka saartay waxayna xildhibaanadu go'aamiyeen inaan badda laga hadli karin maxkamad la geyn karin meel la geyn karin until la helo dawlad oo one man vote ku timid dawladii dambe markii ay timid waxa dhacday in la geeyay sorry wala 1 minute kali waxa rabaa inaan conclusion ka siiyo in 2014 la gudbiyay xuduudaan cusub oo Norway samaysay oo UN ka loo gudbiyay taasoo qeexaysa biyihii meesha 200 ka ahayd in 12 lagu koobo laba sharci oo aan jirin waa la sameeyay territorial water ka Soomaaliya in la tirtiro ayaa lagu waxay muhiimadda meeshaas ku jirta waxay tahay biyaha markay territorial water yihiin ceelasha dhan waxay maraan oo muran ku jiro territorial water keen according to law number 37 markii la tirtiro territorial water-ka biyaha ESZ-ka waa la qaloocin karaa hadii la rabo on class-ka sharcigiisa ayaa dhigayo biyaha territorial water hadii ma la qaloocin karo laakiin hadii ESZ yihiin waa la qaloocin karaa hadii marka muhiimadda ay ka leeyihiin Kenya iyo Norway xoog u saareen biyahana in ESZ loo bedelo ayaa kaasa dawladda Soomaaliya maxay arinta uga qayb qaadatay maxay se ula ordisaan shidaalka iyagoo aan qarankii iyo matqaana amnigii sugnayn national law aan lahayn xildi markii oo sharciga la saxiixayna baarlamaanka lama marin labadaas su'aalood baan rabaa inaan weydiiyo uu mahadsan yahay wasiir aad baad u mahadsan tahay muna waxaan siinayaa abukaat cabdiraxmaan fadlan soo gal السلام عليكم دمانتي وين السلامي وسيركنا iyo salwana mahadsan su'aashan qabo waxa waaye wasiirka sheegay faa'iidada uu leedahay iyo
iyo wanaagga uu leedahay in resourceska laga faa'iidaysto dhaqaalaha iyo waxaas sawir fiican oo naga tusay laakiin aniga waxaan sheegayaa effectiska ay baan su-aal ka weydiinaya ay nagu leedahay iyadoo waddanka aan heshiis ka jirin siyaasadeed iyo mid bulshaba xataa oo aan wax heshiis lagu yahay Soomaali aysan jirin oo hadda tan la isku leenayo LLB ay ku dhimanaysan dhowr boqol oo qof su-aashaas waa midda kale waxaan weydiinayaa fargelinta shisheeyaha hadda tan oo naloo yeerinayo go'aamada oo aan dowladdeenu taag daran tahay oo aan gaari karin decisionno siyaasiya oo adag oo annaga maslaxadeenna iyo national interestgeena ka turjumaya baa haddana haddii ay soo gasho resource oo ay siyaasado kala soo galaan dhibaatada ay nagu yeelan karto arrintaas ma laga fekeray oo sidee loo wajahaya taasaan weydiinaya wasiirka maastan waa mahadsan tahay waxaan siinayaa najma fadlan soo gal najma cabdiweli xirsi najmana ma maqlaysaan malaynaya waan ka gudbayaa xalanaan siinayaa xalane soo gal waa mahadsan tahay magacaygu waa dhaqan roble xalane jooga arday ka dalka Kenya Nairobi waxaan rabaa wasiirka waa salaamaya iyo kasoo qaybgalayaasha wasiirka waxaan weydiinayaa dhowr su'aal oo isxiga su'aasha koobaad waxay tahay fadlan xalano 2 daqiiqo ku soo su'aalaha ku soo koob fadlan haye waa soo koobaya su'aasha koobaad aan weydiinayo wasiirka waxay tahay shirkadaha aan heshiiska la galayno waxa waaye waa shirkado khibrad badan u leh howlahan anagana khibradeenu way yar tahay markaan heshiisyada galayno dad Soomaaliyeed oo khibradaas leh ma haysataa dawladda Soomaaliya oo mataqaanaa ay la dhiil garay kara nimankaas khibrada badan leh wallahi yaaskaas waa weyn leh mase dad yani reer galbeed ay soo mataqaanaa haya garaysa oo mataqaanaa kala ka caawiyo oo kala taliyo kow su'aasha soo weydiinaya su'aasha labaad aan weydiinaya waxay tahay shirkadaha shidaalka qodayo iyo dawladaha loo qodayo mararka qaar way isqabtaan haddii ay isqabtaan waxaa jira maxkamada lagu kala baxo maxkamadahaas dawladda Soomaaliya qayb ma ka tahay oo heshiisyadaas mataqaanaa qayb ma ka tahay waan rabaa inaan ka ogaado wasiirka waxaan kaleeto aan rabaa inaan weydiiyo wasiirka iyadoo oonan jirin mataqaanaa actskii badnaa ee lagu maamuli lahaa mataqaanaa shidaalka sida Waste Management Actigi Monitoring xalane asantahay aad baa mahadsan tahay qofka shanaad oo ugu dambeeyaan rabaa inaan siiyo zaki السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantihiin wasiirkan aad baan u salaamayaa waxaan rabay inaan hal su'aal weydiiyaan rabay wasiirka maxaa ku soo beegay waqtigan ay dawladana xilligeedii soo dhamaanayso in la sahamiyo shidaal maxaa keenay baan weydiinayaa ta kale jirta waxa weeye iyadoonan lagu heshiin oo ummadii loo sheegin wax lagu heshiis lagu yahay oo ummadii loo bandhigin sida wax loo soo saarayo sida loo bilaabi karaa oo shirkado loola gali karaa maxay ahaydeen heshiisyo loola gali karaa inta weydiinaya waa mahadsantihiin aad baa u mahadsan tahay wasiir adaan kugu soo wareejinayaa su'aalaha xoogooda waxay u muuqdaan wasiir inuu jiro degdeg waa la isku wada waafaqsan yahay in baahi loo qabo laakiin arrimo sharci arrimo degdeg arrimo amni environmentiga weli iyaga lagama wada hadlinba wax la iska weydiiyey ma jiraan iyadana su'aal meesha ku jirta weeye arrimahaas oo dhan oo jira ay wasiir waxay u badan tahay dadkiina u helan in la soo saaro inkastoo aad mataqaanaa sababayseen oo tiraadeen waxaan ka baqaynaa in batroolkaba laga guuro annagoo aan weli soo saaran laakiin haddana waaqaca dalka jira dadku waxay u badanayaan arrintaas inay degdeg tahay maxaydaan arrintaas aadan u arkayn dadkiina hawshaas wada waad mahadsan tahay aan ka bilaabo muna sharciga shidaalka Soomaaliya wuu jiray waxaa la sameeyay xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto waxaa la yiraahdaa sharciga shidaalka 2008 marka Somo Oil heshiis marka la galay wadanka sharci ugu jiray kaana ayaa sharci ahaa
kaa waye midka hadda sanadkan 2020 dib u eegis inta lagu sameeyey uu mar kale uu madaxweynaha saxiixay marka kaasaa horta wuxuu yahay aasaaska sharciga shidaalka Soomaaliya marka laga hadlayo arrintan ah boqolkiiba 90 la qaadanaa iyo boqolkiiba 80 la qaadanaa walaal ma aha wax jiro arrimaha shidaalka heshiisyadooda lama gaarin ana dibka jira macna waxay tahay macluumaadka dadka aysan qalad ku haystaan waxay tahay shidaalka sida loo wadaagayo kheyraadka loo kala qaybsanayo xilli gaari maaha heshiiskaas wuxuu ku salaysan yahay document la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka ama production sharing agreement-ga ka waxaan soo bilownay 2015 aan soo bilownay ilaa iyo hadda dib u eegis ayaa ku socoto anaga dawladdeena waxaan u gudbinay dawladdan cusub ilaa iyo hadda dib u eegis ayaa ku socoto marka la dhameeyo ayuunbaa documentigaas kadib ayaa la ogaan karaa physical maanaha marka la soo gaaro qaybaha ah sida wax loo kala yana doodeeda markaas imaanaysaa laakiin waxaan la sii qoray leeyahay boqolkiiba 90 la qaadanayo boqolkiiba 50 la qaadanayo boqolkiiba 10 la qaadanayo macluumaad sax maaha waxaan u heshiin ma jiro dhul lamaana bixin wax Soomaali ah oo dhul badeed ama dhul berri ah oo dawladda federaalka bixisay ha noqoto tii anaga aan ku jirnay ama midda hadda jirta ma jirto oo marka dhul aan la bixin percentagekiisa lagu heshiin karo marka aydan waxaan rabaa macluumaadkaas inaad taa kaga kaftoontid arrinta ah 2 milyan la qaadanaa waxa laga hadlay 2 milyan waxa la yiraahdaa lacagta saxiixa la yiraahdaa ama signature bonus la yiraahdaa mar alaali markii blog la saxiixayo waxa la imaada heshiiska waxa ku jirta waxa la yiraahdaa signature bonus taas way waxa la sheegayo ma aha program kugu siina 2 milyan ma macna heshiiskaas la galayo waa xaqul qaranka wixii aan dhijin hadii aad ka soo qaad meel aad iibsanayso ama meel ganacsi aad iibsanayso oo la kala iibsanayo macna waxa jirta macna xaqul furo wax la yiraahdo soo tan marka waa xaqul heshiiskiisa saxiix waaye 2 milyan shaqo kuma laha sida loo wadaagayo kheyraadka sida loo wadaagayo production sharing agreement ku jirta waa hawsha ayadana macna guul u baahan marka ay la gorgortamayo laga gorgortamo ay u baahan tahay waa kula qabaa macnaha dadka intiisa badan ay ku soo celceliyeen anigana macnaha marka hore aan sheegay macnaha waxay tahay ma mudan tahay hadda in oo shidaalka Soomaaliya hadda la soo saaro oo license round la qabto mar ay jirto macnaha coronavirus uu sidan u jiro mar uu jiro macnaha sicirka shidaalka waa markii ugu hooseysa caalamka uu gaaro almost zero price uu gaaro meelaha qaarkood uu zero uu noqday macnaha in ma la yiraahdo waa la xaraasha ma fiican tahay ani shakhsi ahaan waxaan adaatina aan sheegay haddana ku cilna waxay tahay ilama habboon macnaha fi waqti xaadir in la habboon macnaha hadda waxaan u baahanahay waxay tahay inaan waxyaabihii naga dhinaa inaan dhamaystiran ayaan u baahanahay then markaas kadib haddii la yiraahdo marka uu the right time yahay in la iibiyo sababtoo ah macnaha marka aad uu yahay zero price ku yahay waxa aad gorgortan ku qiyaas kartaa macnaha meesha uu ka bilaabanayo markii uu joogay 140 fuusadii markuu joogay ama 120 markuu joogay iyo markuu fuusadii ay joogto $25 ama $30 ay joogto waa fahmi karnaa farqiga oo u dhaxeeyo agreementyada noocaana hadda gashan negotiation ma laha macnaha negotiation oo hadhow macnaha suuqiga kacay oo macnaha faa'iido heshay anagu wax macnaha saas ma shaqeyso soo marka waa idin qaba kulligiin macnaha it's not the best time in hadda ay tahay laakiin in macnaha regime la diyaariyo waqti dheer ay u baahan tahay macnaha in la soo diyaariyo arrinta ah oo mar qaybteeda labaad su'aasha waxaan filayaa ayadana intaas inaan kaga jawaabay arrinta ah Cabdiqaadir macnaha maana sheegin kaliya arrinta oo positive arrinta negative waa sheegay Nigeria tusaale soo qaatay macnaha Nigeria muddo macnaha country state bilaw shidaal inay dhufiso maanta macnaha oo tusaalahan aan bixinayo 2000 marka la maray ilaa iyo $350 bilyan ayaa lacag ka soo gashay faqriga waa u kordhay macnaha GDP per capita hoos u dhacay mana wax ay dadka reer Nigeria ka faa'iideen waaragtiyo ay safay u gadaan shidaal macnaha shidaal aan helay macnaheedu ma faqriga ka baxay ma shidaalkaadi inaa faqri ka baxdo wuxuu ku xiran tahay hadda u maamulto haddii si fiican u maamulto waa ka baxaysaa haddaad si fiican u maamulna kama baxaysid soo marka arrin oo u baahan waaye in policies-ka ama macnaha siyaasadda iyo shuruucda la dejinayo ay hubiyaan in macnaha kheyraadkan ay dadka ay si fiican ay u wada gaaraan asna su'aashiisi waxa ku jirta arrinta maxaa hadda shidaalka lagu degdegaya oo data ma sheegay oo kula qaba macnaha license round hadda it's not the best time hadda la sameyn lahaa maaha ayadoo macnaha coronavirus uu saamu jiro ayadoo macnaha sicirka uu saamu jiro annaga oo siyaasaddeena laftigeeda ay xilli kala guurta it's not the ideal time waqti ugu habboona in oo xaraash la galo ma aha arrinta ah ajnabiga kusoo firdhina walaal Cabdiqaadir macnaha ajnabiga hadda kuma jira kaliya shidaal kuma jireen wax kasta u jira macnaha adduunka caalamka
maanta waddan kasta waddan kale ayuu faraha kula jiraa maaragtay tiktok aa laisku haystaa oo manaha maraykan iyo maanta iyo china muranka ka dhexeeya tiktok uu taagan yahay marka horta meel caalamka waddan uu kaga fiyow yahay uu leeyahay wixii anaa maamul karo laakiin waxaa muhiim ah dadka muwaadiniinta ah inay ayaga xaqooda u istaagaan ayaga xaqooda ilaashadaan ayaga dowladooda manaha ay xaqooda ilaashadaan taasaa muhiim laakiin in lagu leeyahay in lagu samaynayo in lagu firgelinayo manaha dee su-aal kama taagno gaar ahaan arrimaha shidaalka sababtoo ah adiga haddaadan haysan aqoontii adiga haddaadan haysan dhaqaalihii adiga haddaadan haysan farsamadii dan waxaa u baahan tahay inaad la tacaamulto soo marka inaad la tacaamushan oo u baahan tahay inaad iska ilaalisan oo u baahan tahay soo marka waa arrin mas-uuliyaddeeda koowaad ay saaran tahay dadka mas-uuliyiinta ay saaran tahay laakiin marna inna waxaan laga ammaan helayn fargelin shisheeye sababtoo fargelintii sidaan sheegnay maanaha hadda coronaviruskii hadda jiri waa aragtay maanaha saameynta ay nagu yeelatay dhaqaalihii budgetary support waxaa la yidhi maanaha IMF World Bank naga caawiyaan alaabtii aan sanka ku xirnayna Turki iyo maanaha Chinese iyo halaga raadi maanaha waa dareemi kartaa saameynta qolo walbana barnaamijka wata qofna maanaha inta wax free ku siiyo siyaasadda kama dhaafay maanaha maslaxada ayaa jiro soo marka si aan marka maslaxadaas ugu dheelitir leed xaqaan ugu ilaashanay waa mas-uuliyad na saaran gaar ahaan markaas cidda maamulka haysa saaran midda kale oo ah maanaha ma leenahay khibrad oo aan arrimaha sidaan sheegay dadkii Soomaaliyeed xilligii sideetamaad ka shaqeynay maanta either waa dad retire ama dad macnaha aan dibadda ku nool oo aan industry wax badan ayaa iska bedelay markay imaado know-how-ga dadka aan haysan absolute waa u baahana 100% waa u baahana maanta dadka waxyaabaha dad shirkadaha caalamka ah ee la tartami kara ee wax u sheegi kara ee hor fadhiisan kara Soomaali ma haysato waa loo baahan yahay in dad noocaas aan helno ka shaqeyno aan shaqaalisano dhalinyaro noocaas aan soo saarno aan soo diyaarno laakiin hadda ma haysana may absolute ma haysano okay arrinta maxkamadda xalana qaybta labaad oo xalana maanaha arrinta oo maxkamadda haddii la isqabsado iyo haddii shirkadaha heshiiska galaya la isqabsado maanaha heshiisyada oo hadda aan galno ama ha noqdo shidaal ha noqdo ama waxaan kale oo investments imaanaha ha noqdaan maanaha arbitration clause mar walba ku jiraan haddii ay dhacdo isfaham la'aan ay dhacdo maanaha intee la aada inta badan london ah caalamka maanaha inta badan heshiisyada oo caalamiga london ayaa maanaha wixii arbitration ama dhexdhexaadin loo aada marka kana saasay ka mid tahay xilligii hore maanaha dowladdii hore ay jirtay intaanay maanaha 90kii dhicin ka hor 90koodii dhicin ka hor maanaha way ku jireen maanaha kaloosyo oo mar walba heshiis caalami la galayo in la yiraahdo haddii labada dhinac is qabtaan maanaha arbitration halkee u aadnaa so marka taasna maanaha inta badan london ayaa ah maanaha meesha oo arbitration loo aado laakiin annaga maanaha dee sharcigeena oo Soomaaliya maanaha waxaan ku salaysanay in maanaha ka qaadista ay tahay Soomaaliya ayaan ku salaysanay arrinta ah shuruucda naga dhiman iyo hay'adaha naga dhiman dabcan hadaytna waa sheegay maanaha tusaale ahaan sharciga bay'ada oo kale hay'adda bay'ada oo kale dhamaystirka hay'adda musuqmaasuqa oo kale maanaha there are so many agencies iyo maanaha acts loo baahan yahay oo arrintan kaaba arrinta oo maanaha regulatory regime-ka maanaha arrinta lagu nidaaminayo shidaalka waa industry dhan oo gebi ahaan dhisan ama ha noqoto haddii ay wax dhacaan accidental deaths qofku tilmaamay ha noqoto ama ha noqoto sida operationada loo maamulay ha noqoto waxaas oo dhan oo waxaan u baahanahay hadda kadib inaan samaysano haddii aan nahay Soomaali midda kale haddii aan usoo gudbo Zaki su-aasha ahayd si good time macnaha waqti fiican ma tahay shidaalka in hadda la iibiyo haddaad sheegay haddana ku celinayo aniga aragtida shakhsi ahaan maxamed ahaana maanaha ma qabo inay tahay ideal time oo la iibin lahaa given macnaha waxyaabaha jiro ama ha noqoto mid siyaasadeed ama sicirka caalamka hadda suuqa jira ha noqoto iyo anagoo hadda u baahan inaan isdiyaarina ha noqoto marka maanaha it's not the best time arrinta ah dadka ma lagu wargelin oo waxyaabaha aan hadayt marka hore aan soo sheegayo kalsoonida dadka waa in la kasbado taasna waxaa lagu kasban karaa in wax walba lagu soo qoro website oo dadka ay noqdaan wax transparency ah oo ay dadka ay la socdaan dowladana ay dadku u sheegto tallaabo walba ay qaadayso sida u qaaday meesha ka qaad waxay u qaaday iyo maxsuulkii ka soo baxay oo ay noqoto maanaha website-ka la wada ogyahay oo qof walba macluumaadka uu accessibility uu leeyahay website-kaasna la update gareeyo oo macnaha aysan ahayn maanaha mid oo macluumaad hore ku jira macluumaad cusub uu ku jiro marka waxay keenaysaa inay dadka la socdaan meesha wax marayaan
waaye waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hibaad waqti intee la eg baan haysanaa oon sii wadi karnaa mudane xasan waqtiga intee 2 rounds kale waa samayn karnaa waayahay 2 rounds waayahay waxaan rajeynaynaa waa mawduuc aad muhiim u ah dadka sawirta badan bay muujiyeen marka waa horaan usii soconaynaa waan ka tegayaa waxaan aadayaa ridwaan ma maqlaysa aniga ma la maqlaa aniga ma la maqlaa hadda yaa ku jira ridwaana ku jira ridwaan soo gal waa salaamaya wasiirka iyo ka qayb qaadashada barnaamijka sidoo kale dhamaantiin assalaamu calaykum waxaan ahay arday jooga waddanka ruushka master degree petroleum engineering ah su-aasheedu waxay ku salaysan tahay 2 su'aal ilaa 3 su'aal aan wataa su-aasheedu koowaad waxay tahay wasaaradda petroolka iyo macdanta waqti badan ay dhisan tahay oo muddo badan ay shaqaynaysay caqabadaha ku hareeraysan shidaalkana inta badan waxay ku hareeraysan yihiin qaybtan explorationka marka qaybtan geological surveyga ama geophysics-ka ma waxaa jirta go'aan sax oo laga gaaray oo la dhammaystiray macnaha oo la leeyahay areadaasa waxa laga helay basins noocaasa ama reservoir dhammaystiran noocaasa oo qaybtan geophysics lagu helaa jira macnaha su-aashaas taas waaye talabaad waxaan u gudbayaa waxay tahay shirkadaha inta badan sameeyey documentiska shirkadahan sameeyey ama geophysics surveyga sameeyey documentiska privateka u ah maahane kuwan kale generaalka ah meel loo soo hogaago wasaaraddu oo ay ku leedahay ma jirta ama lagala akhrisan karo ama ardayda wax ka barata ay informationkan generaalka ah wixii aan private ahayn ay ka heli karto si ay macluumaad dheer ay uga hesho marxay uga baahan tahay talabaadna su-aasha u dambeyso saddexaad waxay tahay talooyinka ama rajada qofka wax bartay ceelbaalkii geologiga bartay ama petroleumka bartay oo ka lahaa karo wasaaradaha maanta shaqeeya ama shaqooyinka qaabka loo qaatay arday cusub la qaadan dad shaqaale cusub la qaadanaya hadii jiraan macnaha waa mahadsantahay waayahay aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa Maryam's iPhone ugu qoran okay Abdallah soo gal fadlan السلام عليكم وزيركين وسلامة بعد السلام وسوكوبيا وحروا إن لبس سؤال دقدق عن فيديو سؤال كود وحيل هذا إن كيس عن صار من سؤال كينا ملاقي وعينان هلين السوق ما دام أي وضمن بدن أي نجاريين سؤال كله وحاوي سامين مقولة هاي أو الجلاد الشدال باريستا دولة نسبة بدل أيوايو وتنكسنوا ودم بيسي وحاوي دولة مسؤول هونين أما سنتي aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdinaasir waxaan siinayaa sorry engineer Cabdisalaam Maxamed Xirsi engineer Cabdisalaam M Xirsi isagoo nin cismaan la yiraahdo gacanta door taagaya السلام عليكم مالي مقلع waa lagu maqlaa awaalay maqlaan rajeenaya waayo waa cabsalaan injineer cabsalaan waa okay engineer so waxaan salaamay dhamaantiin wasiirka iyo walaalaha soo qaban qaabiyay barnaamijkan waa salaamaya magacaygu waa cabsalaan waxaan ku noolahay waddanka Pakistan waxaan diyaariyaa engineerinka petroleum and gas engineering diyaariyaa waxaan ku faraxsanahay in aan wasiirka halkan kula kulano cilmiga aan bartaas oo meeshan lagu hadlaya su-aasha aan qabo su-aasha ridwaan ayay ka agdhowdahay laakiin way ka ridwan tahay sidaan ognahaba horta shidaalka markii lasoo saarayo dhowr qaybood ayuu maraa kow in shidaalka la baaro shidaalka markii la baaro oo shidaalkii yani seismic survey uu soo baxo kabacdi geophysical iyo geological survey ay dhacaan shidaalkii in la qodo shidaalkii markii la qodo oo meesha shidaal loogu tago kabacdi production la sameeyo kabacdina refinery yani iyo in shidaalkii refinery lagu sameeyo ama la kasoo distribution lagu sameeyo marka su-aasheeda aniga waxaa waaye Soomaaliya shidaal haddii laga qodo ama haddaba yani sida la sheegayo Soomaaliya ay shirkado waaweyn oo caalami ah yimaadaan sida Shell iyo shirkado waaweyn ay yimaadaan
ardada shidaalka barata fursad noocaa uga furan ma suurtagal baa in ay shirkadahaasi la yimaadeen shaqaale ayaga u gaar ah mase dowladda waxaa qasab ku ah in ay ardadeeda ama dadka wax bartay dalkeeda ka jira ay shaqaaleysiiyaan ayaga shirkadaha ma waxaa waajib ku ah in ay shaqaaleysiiyaan dadka wax bartay ee Soomaalida cilmigan aqoonta leh mase ayaga ayaa la imaanaya shaqaale oo maasantahay aad ba u mahadsan tahay cismaan xasan haddaa cismaan weli ku jiro gacanta u fasax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي مقليا سفعا مقعيق عثمان سلاد حرسي وحان كسو هضيا دالك كندا وحان هاي معلن جامعة لد قيبت جيولوجيا University of Regina قبل سكاتشوان وزيرك aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa macluumaadka iyo backgroundku naga siiyey xeerarka ay soo mareen shidaal raadinta iyo contractyaashii la sameeyey iyo wax ilaa iyo hadda meesha la marayo iyo waxa loo baahan yahay runaaantiina waxaan taabacsanay laftoodu in shidaal Soomaaliya lagana soo saaro lagana faa'iideysto hase ahaatee waa muhiim in loo diyaar garoobaa laba su'aalood aan rabo inaan weydiiyo wasiirka waxa weeye midda koowaad Soma Oil iyo Spectrum Multi-Client Company-ga wuxuu sheegay Soma Oil in markii hore contract laga galay 2013kii kabacdina Spectrum lala galay su'aashidu waxa weeye Spectrum ma waxa la galay heshiiska dawladda Soomaaliyeed mise Soma Oil baa la gashay oo iyadu maadaama kharashka ay bixisay iyada keentay oo taa macnaheedu waxa weeye haddii ay Soma Oil keentay Spectrum accountable waxay u noqonaysaa Soma Oil laakiin haddii ay dawladda Soomaaliyeed keentay dawladda Soomaaliyeed bay accountable u noqonaysaa oo markaas datadii iyo wixii ay soo samaysay dawladda Soomaaliyeed ayaa kala xisaabtanaysa markaasna Soma Oil blokyadii la siiyey oo 12 lagu sheegay inay meesha ka baxaan weeye haddii si toos ah Spectrum loola deal garaynayo marka arrinta xiriirka ka dhexeeya Soma Oil iyo Spectrum iyo dawladda Soomaaliyeed arrintaas inuu xoogaa faahfaahin ka bixiyo waxaana ii daba socday isla taas data bank ma la sameeyey technology transferka iyo dad Soomaaliyeed in loo tababaro datadaas seismic ah oo badeena laga soo qaaday yani arrin noocaas ma ku jirtaa contractiga ma la diyaariyay xagee ay hadda ay maraysaa taasi waa su'aashaas Soma Oil iyo hawsha la xirta su'aashida labaad waxa weeye waxa la saxiixay sharcigii petroolka ayaa dawladda federaalka saxiixday baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay sida uu dastuurka meel gaarka qorayana waxa weeye waxa ku qoran in khayraadka Soomaaliyeed in dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyadu ay ka wada hadlaan oo go'aan iyo heshiis ka wada gaaraan iyo wax lagu wada kalsoon yahay waxaanu ognahay Puntland iyo Jubbaland inay diideen sharcigaas su'aashu marka waxa weeye ma waan lala tashan sida constitution sheegayo mise waa lala tashaday waxa looga codbatay sidii wax loo waxin lahaa oo markaas iyaga laga codbatay marka labada su'aalood baan ku soo koobi lahaa mahadsantiin salaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay mudane Cismaan Salaad Xirsi waa ku salaamaya in badan marka ugu dambeysana waxaan siinayaa waxaa laga codsaday tiimka laga codsaday in waqtigii la gaaray inkastoo wasiirkii laba round baan qaadan karnaa haddana waxaa la yidhi waqtiga aad u socday waana lagu dahay meesha marka idinkoo naga raalli ah tiimka intiisa kale waxaan siinayaa qofkii ugu dambeeyey waxaanan siinayaa Cabdalla ninka la yiraahdo Cabdalla ayaan siinayaa ويا عبد الله هدان ويني وحن سينا يا انجينير يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي مقلع فيلا والله ما سودو سلام كدي وحا سلامة يا وزيرك وفرح سنة هنا انت الله كلمة سيدو كان حوم هاد عنا تيمك سوق مقابي كيبت انت سداو قدو waxaa kamid ah ardayda heerka labaad ka barata dalka dibadiisa
maadadan geology-ga marka mar labaad waxay noo tahay farxad inaan wasiirka halkan jaanis ku helno haddii aan u gudbo su-aasha asxaabtii dhanka oo batroolka baranayeen oo kala la qabaa fikirka iyo su-aalahay soo gudbiyeen su-aasha qaaska waxaa waaye oo dhanka bulshada haddii loo imaado shidaal markay maqlaan hamiga kasoo dhacayo waxay u maleeyaan wax fudud iyo waxaas u maleeyaan marka wasaaradda iyo dowladda naftirkooda ayakan waxaa u maleysaa inay dadkii hamigii iyo kusii dhiirigelinayaan in shidaal zaa'id loo helo wasaaradda iyo wasiirka waxaa weydiin lahaa marka maxaa dhanka ayaga caqabadaha ka dhalan karo iyo shidaalkaas oo kale iyo maxay xoog u saari waayeen masalan ee dadka wacyigelin iyo barnaamijyadaas iyo dhibaatada shidaalka la kulmaayo haddii lasoo qodo maxay ugu wacyigeli waayeen oo intaasaan u gudbi lahaa mahadsantiin waayahay ugu dambeyntii wasiir hal su-aal ayaan kusoo gabagabeynayaa qoraal noogu timid waxaa soo diray sayid cabdulaahi oo jooga dalka ruushka ana arday su-aashu waxay tahay si aan u gaarno himiladeena jawiga adag ee maanta sidee baan u xallin karnaa dhibaatada uu khayraadku u geysto dhaqaalaha iyo isbedbedelka siyaasadeed ee waqti xaadirkan taagan iyadoo aan ognahay culeysyada ka jira shuruucda aan caddayn intaas kadib waxaan ku wareejinayaa wasiirka kadibna waxaan geli doonaa gunaanadka waad mahadsan tahay ridwan su-aashaada koowaad oo arrinta geophysics-ka iyo su-aal uu weydiiyey cismaan from Canada data room ayaan kaga hadli doonaa marka gadaal ayaan marsan doonaa jawaabteeda arrintaada su-aashaadii labaad oo ay ku saabsaneed macnaha public information accessibility-ga macnaha macluumaadka say dadka ku helaan oo macnaha ay ku ogaadaan waa mid haddaati aan ka dhawaajinayo ah si dadka kalsoonidooda loo kasbo waa in ay website ay dowladda wasaaradda ay leedahay oo macluumaadka dadweynaha loogu talagalo waa inay jirto oo regular la update gareeyo macnaha si wax alaali wixii la samaynayo sababta loo samaynayo cidda samaynaysa maxsuulkeeda ay ula socdaan waxaan waa hanti qaran dadka Soomaaliyeed iska wada leh sida uu sheegay sharciga waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka wakaalashadaas la wakaashada daraadeed waa inay dadka la wadaagaan tallaabo walba loo qaadayo iyo sababta loo qaadayo iyo maxsuulka soo baxayo marka arrintaas waa muhiim la'aanteedna haddii aanay jirin waxaa imaanaya macnaha kala shaki iyo madow ayaa imaanaya oo kula qaba arrinta ah shaqada adiga iyo waxaan filayaa injineer cabdisalaan labadiina macnaha waxaad ka hadlaysa maxay tahay arrinta shaqada prospectiga industrygan wuu cusub yahay nagu cusub yahay dabcan hadda buu bilaabanaya marka waan ku faraxsanahay in ay jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed ee danaynaysa industryga inay ka shaqeeyaan oo ay mustaqbal ka samaystaan waana dadka oo go'aamin kara macnaha exactly industrygan in lagu guuleysto inaan lagu guuleysan macnaha go'aanka markaan leeyahay macnaha waxay tahay roolka ay ka ciyaaraan haddii la helo dad dhalinyaro oo Soomaaliya oo maskax furan oo la jaanqaadi kara macnaha teknoloji cusub iyo soo saaritaanka shidaalka cusub then macnaha waddankan wuxuu fursad u leeyahay inuu kheyraadkiisa ka faa'iideysto marka dabcan culeysyada ka jira shidaalku waxay la mid yihiin culeysyada ka jira hay'adaha kale oo dhan oo waddanka jira ama ha noqoto cadaaladda ama ha noqoto adeega bulshada waxbarashada caafimaadka jira ayay ka mid tahay dabcan wayba kasii hooseysaa oo de waa industry oo hadda bilaawa macnaha kuma dhahayay marka hadda shirkada Soomaali joogo oo diyaara jiro oo arrimaha shidaalka dad shaqaaleysanaa ama dowladda budget u hayso oo lacago dheeraad u hayso oo u tala gashay industrygan inay ku shaqeystaan macnaha dabcan ma jiro hadda bay wixii bilow yihiin budgetka hadda kii hadda revision lagu sameeyey waxaa lagu soo daray Somali Petroleum Authority lagu soo daray ama hay'adda nidaaminta shidaalka ayaa lagu soo daray budget cusub baa loo sameeyey macnaha waxyaabahaas oo kale waa waxyaaba kabaya laakiinse macnaha waxay u baahan tahay more than that taas in ka badan ay u baahan tahay si dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shaqaaleynta ay u helaan laakiin intaas intooda badan waxay waxaas dhici doonaan marka dhaqdhaqaaq ganacsi oo shidaal raadin ama saamin u bilowdo markaas ay bilaaban doonaan macnaha hadda waxaan ugu jiraa wejigii hore oo hordhaca ayaa lagu jira haddii aan u gudbo Cabdalla su-aashiisa ahayd macnaha suuq geyn oo dibadda dabcan suuq geynta in shidaalku waxyaabo badan ayaa ka horreyn macnaha in shidaalku la suuq geeyo in baahi ay adduunka ka jirto macnaha waa waxyaabaha oo gadaal looga gudbi doono badanaa marka arrimaha xaraashka la sameynayo oo muhiimka ah oo in la sameeyo waxay tahay waxa loo yaqaan strategic impact assessment shidaalkan aan rabnay inaan xaraashno shidaalkan aan rajaynayno inaan sameyno okay marka hore horta macnaha anaga si aan u yeelno
institutional requirements keen maana maxaan u baahanahay waa inuu ka jawaabo documentigaas midda labaadna maana dakhliga ka soo bixi karo maana meequu noqonaa iyo midda saddexaad waa dowladda objectiveyadeeda ama ujeedooyinkeeda ama goolasha ay leedahay iyo sidee isu waafajin karnaa dakhligaas aan filayn inuu ka soo baxo maana document noocaasa marka la diyaariyo u anfacaya maanaha inaad adiga jeegarayso inaad diyaar tahay iyo sidaad diyaar u tahay iyo haddii aadan diyaar ahayn meesha kaa dhiman iyo waxyaabaha kaa dhiman oo marka arrinta marka oo marketka maana waa later on stage imaanaysa provided laakiin maana hadda dhaqaalaha caalamka waxyaaba badan waxay jirto oo hadda cidna ma sii saadaalinayn maana coronavirus inuu imaanayo maanaha in suuqii petroleum uu sidaa noqonayo maanaha cidna ma sii saadaalinayn maana badanaa adduunyada dhan waxa lagu sareynayay trendigu kusoo socday 10 sano ugu kasii horreysay 20 sano oo kasii horreysay si kusoo socday ayaa la filayay maanaha in energy baahida loo qabo ay kobci doonto ayuu qiyaasay laakiin hadda coronavirus wuxuu keenay in dib loo eegaba maana industry kale maana industry kasta ma aha kaliya petroleum maana ama ha noqoto kuwii hoteelada ama ha noqoto qaabkii aan wax u baranaynin ama ha noqoto qaabka aan u shaqaynin soo marka shidaalka laftigiisana maana market exportiga wuxuu noqonaa sida uu noqon doono wuxuu noqonaa waxyaabaha dib loo eego u baahan ayuu ka mid noqonaa arrinta cabdisalaan iyo hadaati arrinta uu weydiiyey ridwaan waa waxaan filaya inaan ka jawaabo oo ah arrinta fursadda shaqada dhalinyarada maanaha in sharciga marka oo shidaalka maanaha waxa ku jirto ama heshiiska maanaha shidaalka lala gelayo waxa ku jiro wax la yiraahdo local contents oo ah inta la helayo dad Soomaali ah oo aqoonta leh ama inta la helayo shirkad Soomaali ah oo hawshaas qaban karta in ayaga mudnaanta la siiyo sababtoo ah maana sida kaliya ee shirkadahan ay Soomaalida ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay kula tartami karaan ama ay qayb kaga mid noqon karaan ayay tahay marka local content elements ayaa ku jira agreementiga oo difaacayo xuquuqda dadka Soomaaliyeed ama macnaha mudnaanta siinaya laakiin haddii dabcan qof shaqada qabta la waayo ama shirkad shaqada qaban karta la waayo oo lagu khasboonaana in banaanka la keeno arrinta Somo Oil iyo Somali Spectrum walaal Cusman arrinta Spectrum iyo Somo Oil laba arrin oo shaqo isku leh maaha Somo Oil heshiis gooniya lala galay seismic survey gooniya qabatay xogtiina dowladda Soomaaliya ay kusoo wareejisay 2015 ayada shaqada intaas ku ekeed maana marka imaado xog ahaanta marka ma jiro heshiis oo Somo Oil iyo ka dhaxeeyo Spectrum ka dhaxeeyo ma jiro laakiin waxa meesha ku jira macnaha waxay tahay xogtii ay noo keentay Somo Oil ayay dowladda Soomaaliyeed heshiis gooni ah kula gashay Spectrum inay u market gareyso inay u iibiso laakiin ma jiro wax heshiis saddex geesood ah ma jiro haddaan mar kale kugu celiyo heshiiska u dhaxeeya ma jiro heshiis u dhaxeeya Spectrum iyo wax la yiraahdo Somo Oil wax heshiis u dhaxeeya ma Somo Oil waxay samaysay xog ururin samaysay xogtii Soomaaliya kusoo wareejisay ayada macnaha waxay tiri shaqadan qabtay waxaan rabaa in 12 bilood la tixgeliyo ereyga ma ah leesiyay ma wax la siiyay ma jirto la tixgeliyo daytadii ay soo wareejisay marka waxaad u baahan tahay caalamka cid iibisa ayaad u baahan tahay waxaa jirta marka Spectrum oo ahayd waxyaabahan iibiso ayada heshiis gooni la galnay ayada marka waxa naga dhaxay waxay tahay inay market gareyso faa'iidada ka soo baxda dowladda Soomaaliyeed iyo Spectrum ay faa'iidaan mar ay wadaagaan soo marka waxaan filayaa in ay arrintaas ay ku qacadahay arrinta daytada mana waxaan sameynay data room wax la yiraahdo oo xogtii laga soo aruuriyay Spectrum xogaha Soomaaliya kaliya ma aha Spectrum iyo Somo Oil mid sameeya ma mana waxa jirto CGG yaa jiro mana shirkado hore u jira jiro islu midar laftigeeda data haysa marka data roomkaas waxa loogu targalay in xogahaas oo dhan lagu soo aruuriyo oo ay noqoto xog Soomaaliyeed maana dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dib lagu soo tababaray qaar waxaa xasuustaa Masar ku soo tababarnay kuwa Norway aadeen kuwa meelo badan caalamka aadeen maana sida daytada loo aruuriyo maraakiibta dada raacay dhalinyarada raacday oo raacday markii la fasirayay daytada process la sameeyay dhalinyarada tababarka lagu siiyay marka way jiraan macnaha hoos way socotaa dabcan laakiin mar walba wuxuu u baahan yahay horumar iyo kobcin u baahan yahay oo macnaha data roomka ay haystaan shirkadaha caalamka lama tartami karno laakiin bilow wuu jiraa so hopefully in data roomkaas la xifdiyo oo la sii wado ayaan rajaynaa laakiin kulley markaan anaga ka tegayna maana data room kuu jiray datada way taalay wayna shaqaynayaan arrinta ah agreementiga maana marka la gaaro haddana Puntland iyo Jubaland oo kale waxa ka dhaca dowladda federaalka manaha waa tallaabooyinka oo Soomaaliya ka jiro oo hal talaabo hor loo qaado laba talaabo gadaal loo qaado hal talaabo hor loo qaado
mana waxba lagu soo heshiina haddana waa laga laabana manaha arrinta waxay salka ku haysaa arrinta federalizationka manaha arrimihii federalizationka oo muhiimka ah fundamentalka sida awoodaha loo kala leeyahay xuquuqda loo kala leeyahay resourceka loo kala leeyahay weli kumaanan heshiin manaha waa waxyaaba oo qabiya taas hadda marka manifestationkeeda ama tusaaleed waxa laga arki karaa arrinta doorashada manaha oo hadda la leeyahay ismare baa lagu kulmo dowladda federaalka xukumayso oo manaha baarlamaanka miyaa loo dhaafaa maya dowlad goboleedeeda xukuma doodaas waxay la mid tahay arrimaha oo arrinta khayraadkan oo ah manaha yaa talo kule yaa tusaale kule yaa go'aan kule inkasta oo heshiiska la sameeyey laakiin dee waxyaabaha oo political disagreementiga ay ku jirto ayay tahay ayadoo heshiiska la sameeyey ayuunbay haddana doodeedii ay weli taagan tahay sida keliya marka lagu wada xallin kara macnaha waxay tahay in la wada hadlo in macnaha dastuurkan lasoo dhammaystiro ayay ku xallismaysaa laakiin waa waaqic jiro oo aanan la inkiri karin in macnaha aragti kala duwan ay ka dhex jirto dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrinta haddii aan usoo gudbo injineer yaxay wasiir intaadan ka bixin wasiir intaadan arrintaas ka bixin fadlan aan wax yar hakad ku geliyo in saddex arrimood kuna jirtay adiga muxaadaradaadii in badanna Soomaaliya laga qoray waxaa moodaa in saddex arrimood la dul istaago marka laga soo tago barnaamijyada kale iyo dhibaatooyinka waxa weeyaan lahaanshaha qaybsiga sharinka iyo maamulka hadda laba ka mid ah yani lahaanshaha iyo qaybsigaba waxaa tiri weli lagama heshiin maamulka isaga ma laga heshiiyey haddaan saddexdaas laga heshiin hawshan see ku soconaysa waa saddexda ugu muhiimsan oo hadda inta badan paperskan ay ka hadlaan laga sameeyo hadda marka laga soo tago arrimaha waxaan filayaa inaan lagama heshiin waxaan filayaa waa laga heshiiyey by according to Baydhabo agreement sida resourceka loo yeelanayo loo wadaagayo loo maamulayo waa laga heshiiyey laakiin badanaa waxyaabaha dhaca waxay tahay ayadoo lagu soo heshiiyey ayaa haddana markii laga soo tago kadib ayaa haddana wuxuu yimaadaa dispute yimaadaa manaa kala aragti duwaansho imaada marka taas waa waxaan u baahnaa inaan ka wada hadalno oon ku heshiino mooyaane heshiiskii Baydhabo agreementiga mechanism noocee baa lagu xalinayaa markaas maxkamada miyaa lagu xalinayaa siyaasad miyaa lagu xalinayaa maxaa lagu xalinayaa arrimaha noocaas waxa taagan arrinta fundamental la isku hayo oo aanan weli la xalin waa arrinta awoodaha federaalka iyo sida loo kala yeelanayo inkasta oo elementigan lagu soo heshiiyey Baydhabo lagu soo heshiiyey oo la yiri manaha aan yeelano manaha resource aan samaysano kala soo qaad national resource council aan samaysano golo wasiiro oo min golaha madaxweynayaasha iyo ku wada dowlad goboleedyada iyo prime minister yahay inkastoo la yiri manaha Somali Petroleum Authority hay'adda nidaaminta boorkeeda hal xubin ha soo wada magacaabaan dowlad goboleedyada laba xubin ha soo magacaabaan dowlad federaalka inkastoo lagu heshiiyey haddana Somali National Oil Company hay'adda shidaalka Soomaaliya lagu soo heshiiyey boorkeeda sida uu noqonay waxaasoo dhan waa lagu soo heshiiyey kow sida loo kala wadaagay waa lagu heshiiyey Baydhabo waxaa la yidhi manaha dowlad federaalka haddii badda laga helo intaas ha qaato haddii badda soka laga helo intaas ha noqoto haddii beriga laga helo intaa ha noqoto haddii dayta tahay intaa ha noqoto waxaasoo dhan waa lagu soo heshiiyey laakiin dabcan sida oo badanaa aan aragno Soomaaliya macna waxay tahay ayadoo lagu soo heshiiyey ayaan kadib haddana waxaa arkaysaa dadkii is haysto only marka way oo lagu xallin karo macna waxay tahay wada hadal macnaha haddii cid oo u xoog sheegan karta ama cid qasab karta ma jirto laakiin macnaheedu ma aha in heshiiska Baydhabo aasaas u ahaa wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro waxyaabaha kale oo marka ka dhiman fiscal federalization ka dhiman in aydan la soo dhammaystiro oo macnaha oo muhiim u ah ayay tahay dabcan arrinta ah doorashooyinkii waxaasna waa saan kuu sheegay waxay manifestation u yihiin diidmada aan isu diidanahay sidaan awoodaha u kala leenahay ayaa arrintan ay muujinaysaa dowladda dhexeelada arrimaha doorashooyinka anaa maamula annaga nooga dambeynaa goboleed waxay leeyahay waa kula leenahay talada soo marka arrimahaasoo kale waa arrimo u baahan ka wada hadal khayraadka waa lagu soo heshiiyey bilow fiican u ahaa laakiin dhammaystirkiisii iyo melmarintiisii u baahan tahay haddana agreement ay u baahan tahay marka haddii aan intaas ka gudbo midda oo yaxya manaha arrinta ah dadka rajadooda iyo sida manaha loo maareyn lahaa waa arrin muhiima in dadka Soomaaliyeed la maran habaabiya ma habboon oo la yiraahdo jidalka 2 sano lagu soo saaraa 3 sano kadib khamiisa gashanaysiin waa taajiraysiin ana wax waaqicna ma wax suurtagalna ma wax soo kordhinayso aan macnaha niyad ahayn ma jirto manaha shidaalka in laga shaqeeyo wuxuu u baahan yahay isku diyaarin ayuu u baahan yahay madaxan inaan isku diyaarino qaran ahaan inaan isku diyaarino dowlad ahaan inaan isku diyaarino ganacsada gaarka inay isku diyaariyaan manaha inaan helno environment siyaasadooda degan inaan helno sidoo kale inaan helno manaha waxyaabihii loo saamaxay inaan soo jiido maalgelinta soo markaas kadib uu imaanayaa in oo shidaal la soo saaro laakiin shidaal manaha dee waa rabnaa kuma soo baxo
marka waa kula qabaa in maareynta la sameeyo inta ugu dambeysa oo cabdullaahi uu ka hadlayay oo macnaha isbedbedelka iyo macnaha dhaqaala caalamka mar walba isbedel horta ku jira macnaha mar caalamka uu xasiloon yahay ma jirto mar walba duruufeedu jiraa laakiin annaga hadda mid noo gaarka ah macnaha waxay tahay in maamulka markuu yimaado maamulka ku xiga aragti ka duwan uu la yimaado jihadii loo socdo mooyaane jiha ka duwan loo yimaado dee maanaha marka laga hadlayo shidaal waxay u baahan tahay waa wax waqti dheer qaadanaya u baahan xasilooni siyaasadeed u baahan xasilooni amni u baahan macnaha maadaama hantida la gelinaya ay tahay hanti hal meel gelayso oo badan oo waqti dheer qaadanaysa in faa'iidada la gaaro suurtagal ma aha in macnaha isbedel fara badan inta yimaado oo maalinba dhinac loo jeesto macnaha dadka maalgashayaashana uma haboono macnaha dalkan uma haboono marka waxaa laga maarmayn inaan abuurno jawina lagu maalgashan karo annagana aan wadankeena khayraadkeena aan kaga faa'iidaysan karno laakiin haddii macnaha xasilooni darro siyaasadeed ee mar walba jirto waa adkaanaysaa in la geeyo sidoo kale haddii lagu fududaado oo la yidhahdo macnaha annagoon diyaarsanayna amana waxaan samaynayno dee wixii mar kale hadda dib u noqonaynaa waa marka waa mahadsan tahay waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaa noo soo xiri doonaa mudane maxamed doodishe agaasimaha macadka hibaad waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa akhyaarta tirada badan ee weliba runtii caawa u badan dad fiilkan aan ka hadlayno aqoon badan u leh inaynan kulligood wada gaarin waxaan jeclahay insha allahu macadka inuu noo badiyo programyada noocaana laguna casumo akhyaartan tirada badan ee meeshan ku jira nin ka mida akhyaarta meeshan ku jira oo la yidhahdo maxamed carab ayaa waxa uu soo jeediyey in bacdama ay halkan soo galeen dad badan oo takhasus arrintan u leh saacad iyo 2 iyo 3 iyo 4 aan lagu koobi karin hawshan inay xiriir gaar ah yeeshaan oo ay arrimahan ka wada socdaan wuxuu soo gudbiyey wuxuu offer gareeyay inuu isaga arrintan isku duwi doono wuxuu soo gudbiyey lambar inaad arkaysaan waa suurtagal lambarkiisa waxa weeyaan waa +601 163675266 fadlan halkaas ugu qoran yahay dabcan Facebook iyo YouTube iyo meeluu geli doonaa xogta kale meelaha ku arki doontaan in mar kale waan ka cud daaranaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in mudane wasiir caawa dhan wasiir baan ugu yeerayay waa wasiir hore laakiin xilliga aniga aan xafiiska ka ahaa ra'iisul wasaaraha xogayaha joogtada ayuu wasiir ii ahaa sidaas ayaan mataqaanaa bil ixtiraam ugu leeyahay laakiin waa wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta waxaan marka uga mahadcelinayaa macluumaadka tirada badan ee caawa uu halkan noogu sheegay runtii waxaa muuqda degdegsiyo tiro badan ayay dadka qaarkood u jeedaan oo ay leeyihiin dalka shuruuc iyo dib u heshiisiin iyo amni iyo waxyaabo tiro badan baa jira dadka dhinaca qaar waxay u jeedaan farsamo iyo aqoon baa maqan oo yacni shuruucda halkaasi ka hadlayaan dadka dhinaca kalena waxay arkayaan in haddii aanan maanta iyo waqtigaan la bilaabin waxaan 15 sano soconayaan haddii aanan la isku barbar wadin arrimaha in la gaari doono xilli barnaamijkan oo dhan iyo macnaha khayraadkan oo dhan aan loo baahan sidaas darteedna Soomaaliya uu ka khasaari doono waqti muhiim ah sidaas darteed waxay qabaan wasiirka iyo dad badan oo halkan ku jira waliba gaar ahaan dadka aqoonta u leh waxay qabaan in la soo saaro kaliya waxay isku khilaafsan yihiin farsamada loo marayo iyo shuruucda loo dejinayo iyo sida loola dhiil gareynayo ama loola tacaamulayo ajnabiga iyo aqoonaha kale aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin insha Allah waxaan rajaynaynaa mar kale in aan fursado noocaan ah isugu iman doono waxaan ku wareejinayaa programka inuu noo soo xiro mudane maxamed sheekh doodishe oo ah madaxa macadka hoon ama geeska Afrika ee horumarka iyo nabadda mudane ku soo dhawo sanad cabdisalaam maxamuud jaamac salwe aad baan kaaga mahadcelinayaa sidii waqtigii qiimaha badneed iyo diintii quruxda badneed oo aad meesha gelisay waxaan u mahadcelinayaa wasiir maxamed mukhtaar ibraahim oo xogta caawana la wadaagay ka qaybgalayaasha qiimaha iyo qaayaha leh oo runtii u badnaa dad xiriir dhowlo leh ama aqoon durugsan u leh howlahana waa ugu mahadcelinaynaa waqtiga kooban dartiis waxaan ballan qaadaynaa in howlaha ku saabsan resourceka guud ahaan iyo gaar ahaan shidaalkaba doodahooda ay soo laalaaban doonaan haddii la yidhahdo meesha wax ku dhammaanayaan ma aha caawa ayaan daha furnay dooda ku saabsan arrinta shidaalka wayna socon doontaa haddii la yidhahdo wasiir maxamed mukhtaar diyaar buu noo yahay maxamed carab waa soo dhoweynaynaa soo jeedinta uu soo jeediyey waana wada xiriiri doonaa haddii la yidhahdo
doodihii ama hybrid saan hore u sheegnay waxay u taagan tahay inay abuurto dood soomaalida dhexdeeda ah oo ay ka tashadaan arrimahooda 4 qaybood oo waaweyn ayaan ka hadalnaa arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo arrimaha geopoliticska waa madal furan qof kasta oo ra'yi haayo waa soo dhaweynaynaa ra'yigiisana waa dhegaysanaynaa waxaan idinkaga mahad celinayaa waqtigii aad nala wadaagteen oo nala joogteen muddadii dheereyd waxaan ka cudur daaranaynaa xogaagii qalabkii farsamada yara dhacay 7 bisha oo maalinka jamcaha ah waxaan leenahay dood ku saabsan culaysyadii ka yimid dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska burburka soomaaliya kadib waxaa soo jeedin doona doctor afire cabdi cilmi ayaa soo jeedin doona haddii la yiraahdo maalinka axadda ah oo bisha ay 9 tahayna waxaan ka qaban doonaa dood kaleeto oo ku saabsan hindisihii Djibouti iyo soo noolaynta qaranimada Soomaaliya casharadii laga bartay shirkii carta waxaa soo jeedin doona Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ka mid ahaa dadkii shirkaas qabanqaabadiisii iyo kamirdadantiisii horseedka ahaa inta aan kulankan oo kale kulmi doono dhammaantiin waa idin mahad celinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh habeen wanaagsan